assalaamu calaykum soo dhowaada saaxiibayaal walaalkiina barqado maanta inii wada qiso kale oo aad u xanuun badan ka horse intaana qisadana bilaabin hagow inaad muuqaalkan like saartid janalka dadka cusubtaana subscribe-ta naga hilmaamin aad baad u mahadsantaha haddii intaasi aan samaynay aan qisadeenna gudaha u galno samuel waxa uu fadhiyey daarka hore ee guriga walaalkiisa ka yar xilligaasna waxa uu ka fekerayey sababta uu noloshani nuucaan ugu nool yahay xilligaas uu meesha ku fekerayay daarka hore fadhiyey waxay ahayd xilli qorraxdhaca xaaskiisa ayaana xilligaas waxay ka soo baxday gurigii oo dhar ay dhaqayd ayay bilowday xilligaasi biyihii wasaqda inay bannaanka isaga soo rogto kadibna ninkeeda oo daarka hore fadhiyay ay aragtay waxayna ku tidhi ninkaygiiyo maxaa kugu dhacay maxaana sidaan idil aad ugu murugaysan tahay waad og tahay waxaan u baahannahay inaan dulqaadanno marka waan ku baryayaa murugadan iska daa isagiina xilligaas wuxuu yidhi walaal aan ku weydiiyey nolosha noocaana maxaan ku mutaysannay tan kale xanuunkaan marayna ma dareemaysa miya iyadana xilligaas waxay bilowday ninkeeda inay dejiso waxayna tiri ninkeygu waa ku dareemi karaa tan kale ogowsaan haddaa u sii fakartid waxaa kugu kacaya dhiikar iyo wax kale marka waan ku baryayaa iska daa iyadoo xilligaasi kursi meeshii la soo jiidatay kadibna ninkii dhinaciisa u soo dhowaata bilowdana inay xilligaas u dejiso iyadoo dhahaysa wax walba way wanaagsanaa doonaan ee waxaa nagala baahan yahay waa inaad dulqaadataa xilligaasi iyadoo deer la hadlaysa ninkeeda meeshii waxaa timid gawar kale kadibna waxay bilowday inay ku qayliso deera waxayna tiri maxaa kaa qawdan maxay ta dharka meesha aad uga soo tagtay anigu waxaan ku dhahay dharkaan oo idil waa inaad dhaqdaa maxay ta sidaas iyo weliba tan kale ninkaada meeshan maxaa ula fadhiisaa meeshani meel lagu sheekaysta miya howl qabyo ayaa ka soo tegaysaa kadibna ninkaada ayaa halkaani soo sheekaysanaysaa dhaqanxumadaasi maxay tahay hadalkaasi waxaa tiri aliisha qof kale ma ahayn ee waxaaska uu qabo walaalkiisa ninkani ka yar kadibna samuel oo cadhaysan ayaa uu ku soo jeestay gabadhii wuxuuna yidhi maxaa kaa qaldan waa u jeedaa aniga xaaskay wakhti ayaan qaadanayna waa sheekaysanaynaa markuu ku barya meesha ka tag intaana rubaxsho kugu dhufan goortaysa hadalkaasi aliisha maqashay ninkii ayay ku soo jeesatay kadibna weliba iyadoo daanka u soo dhoweysay waxay tiri waa kanay kalbalaadhi dharbaa waa haddii nin rag aad tahay laakiin goortuu samuel intaasi maqlay uu isceli waayey islamarkiina kursiga uu xilligaasi ku fadhiyay ayuu ka soo istaagay waxa uuna bilaabay gabadhii inuu xilligaasi dharbaxsho ku dhufto laakiin xilligaasi intiisa gacantiisii gaarin doonayeen inuu dharbaxsho ku dhufta ayaa islamarkiiba aliisha dhulka isku tuurtay xilligaasna waxa ay bilowday inuu oyse waxa ayna tiri dharbaxsho ayuu igu dhuftay isla meeshii ayayna ka kacday xilligaasna guriga ayay gudaha ugu laabatay waxayna tiri ninkayga ayaan kuu sheegayaa kadibna guriga ayay gudaha u gashay dheer ayaa xilligaasi ninkeeda ku soo jeesatay waxayna tiri ninkaygii waad ogtahay islaantan way iska dhib badan tahay maxaad ka rabtaa hadhow been ayay ka abuuranaysaa isagiina waxa uu yidhi waa islaan kibirsan isla markiina deera meesha ayay ka dhaqaaday biyi ayay iska daadisay kadibna guriga ayay ku laabatay samuelna kama uusan dambayn laakiin xilligaasi uu kacay iyo waxa uu yidhi arduni nuucan maxaan ku noolnahay meeshii layska shumay jiray ayaa maanta cayl la isugu daray kadibna meesha ayuu xilligaasi ka dhaqaaqay guriga ayuuna gudaha ugu soo laabtay kadibna xaaskiisa iyo weliba cunugiisa ayuu bilaabay xilligaasi inuu wakhti la qaato xilligaasna waxa uu sugayay intuu walaalkiisa ka yar uu ka soo laabanayo si uu ugala hadlo arrinka xaaskiisa ku saabsan xilligaasna qolkiisa ayuu ku diray isaga iyo weliba cunugiisa iyo xaaskiisa kadibna waxay maqleen qaylo bannaan ka soo yeeraysa qof kalena ma uusan ahayn ee walaalkiisa ka yar ayuu ahay kaasoo lagu magacaabaya felix ayaa xilligaasi yidhi samuel maadaama xilligaas qolka uu isugu xidhnay samuel islamarkiiba uu soo istaagay inkastoo xilligaasi uusan filin walaalkiis inuu guriga ku soo laabanayo isla markiiba bannaanka ayuu u soo baxay felix ayaana xilligaas walaalkiis ku yidhi sida ayaad isugu dayday tan kale aan ku weydiiye waxaan ku siiyey guri hooyaa ku noolaatid cunto aad cuntid maantana heerma waxaa gaartay xaaskay gacan aad u qaadid sida arrinkaad u samaysay samuel oo xilligaas aad u caraysan ayaa islamarkii walaalkiis ku yidhi adiga ayaan gacan kuu qaadaya haddii mar dambe haskaa maqlo maxaa kaa qaldan maa marka hore anigii weydiisida maxaaskaada keliya ayaad dhegaysanaysaa maxaana kaa qaldan kadibna aad buu arrinkaas uga carooday felix waxa uuna ku yidhi waxaa kaaga darta quudintii iyo weliba guriga sida aan kuugu soo dhoweeyey adiga maaha neebdarrada isla markiina mobilkiisa ayuu qabtay wuxuuna yidhi booliiska ayaan wacayaa deera oo xilligaasi qolka ku jirta ayaa isla markiiba qolkii ka soo booday kadibna waxay u timid felix xilligaasna waxay bilowday inay bariso waxayna ku tiri waan ku baryay arrinkan booliiska ku wargelin tan kale ninkayga aniga ayaa la hadlayaa kadibna xaaskaada ayuu raaligelinayaa felix markaas waxa uu ku yidhi okay orad la soo hadal isla markiina deera waa ay soo oraday ninkeeda ayayna u timid xilligaasna waxay bilowday ninkeeda inay bariso waxayna ku tiri ninkaygii waan ogahay inaadna qalad gelin
laakiin waan ku baryaa orda islaantaasi hal mar raaligelin u sameey. Waxaa laga yaabaa inay ku cafiso. Samuel xilligaas waa uu fiirinayay, kadibna walaalkiis ayuu jaleecay. Xaaskiisa ayuuna sidaas oo kala dilay, isla markiina meesha ayuu ka dhaqaaqay oo qolka ayuu gudaha ugu laabtay. Alex arrinkaas aad buu uga carooday, isla markiina wuxuu bilaabay booliiska inuu waco. Laakiin xilligaasi Deer ayaa isla markiiba soo orday, wuxuuna u soo orday dhankaasi Alisa. Alisa ayayna xilligaas u jilbajastay, waxayna bilowday inay bariso. Waxayna tiri marwuu naga raali noqo, anigoo ninkayga dhinaciisa ka hadlaya. Waxaan ku leeyahay arrinkaas uu ku geystay ka raali noqo, weliba mar dambe arrinkaas sooma laaban doono. Alisa ayaana xilligaasi tiri haa, hadda ayaa si wanaagsan samaysay. Sidaas hadday tahana ninkaaga waan cafinayaa. Kadibna meesha ayay xilligaasi ka dhaqaaqday. Laakiin xilligaa meesha waxaa jooga wiilka yarka oo xilligaas qolkii ka soo baxay. Hooyadiis ayuuna xilligaas ku soo orday, weliba isagoo habsiiyey. Maamadii ayaana bilowday wiilkeeda inay xilligaas dejiso. Dhanka kale, Alex ayaa xilligaas xaaskiisa gacanta ka qabsaday. Labadoodana xilligaasi qolkii ayay ka baxeen, iyagoo dhankaasi gurigooda aaday. Maamadii ayaana xilligaas cunugeedii yarka habsiisa, waxayna tiri wiilkaygiiyow wax ma jiraan, marka waan ku baryaa isdeji. Iyadana xilligaas waxay sii jilaacisay Felix iyo weliba xaaskiisa. Goortay soo ogaatay inay baxeen, ayay isla markiiba cunugii gacanta ka soo qabtay qolka ayayna ku soo laabteen. Kadibna qolkeeda markay saas u soo gashay ayay bilowday ninkeeda inay la hadasho. Laakiin xilligaas waxay xaqiiqsatay ninkeeda inuu hadalkeeda u danaynayn, sababtoo xilligaas waxay ogeed ninkeeda iyo weliba dhibaatada uu marayo, weliba dhibaatadaas uu kala kulmayo wiilkii isaga walaalkiis ahay. Sidaas oo kale Samuel sariirta ayuu dhinac ka fadhiyey, weliba aad buu u murugaysanay. Habeenkaasna sidaas ayuu ku gudbay. Subaxiga markii la gaarina isaga shaqo ayuu iska goobtay, xaaskiisana howleeda ayay xilligaas gashay. Goortaysa howlihii jikada soo dhammaysay ayay waxay ku soo laabatay wiilkeeda yarkaasi ay hurdada u kiciso. Xilligaasna waxay ratay isagoo wadnaha haysta, waxayna taabatay madaxiisa, waxayna ogaatay inuu jiran yahay. Bal waxay ratay wiilkan aan kaga sheekayno. Bil ka hor wiilkan waxaa laga soo sheegay in loo baahan yahay wadnaha in qalliin loogu sameeyo. Arrinkaasna waxay la wadaagtay ninkeeda Samuelna wuxuu u tegay walaalkiisa. Xilligaasna caawimaad ayuu weydiistay, wuxuuna ka codsaday inuu caawiyo. Laakiin xilligaas walaalkiis waxa uu sheegay inuusan wax lacag ahayn, mar hadduu lacag helana uu caawi doono. Samuel markuu intaas xaqiiqsadana isbitaalka uu tagana waxaa loo sheegay lacag fara badan. Sidaa darteedna wuxuu go'aansaday wiilkiis inuu kiniinyaal iska siiyo, isagoo rajeynaya inuu mar uun fiicnaan doono. Sheekadana aan dib ugu soo laabanno. Goortii qolkii ay sidaas u aragtay wiilkeedana Alex isla markiiba waa ay soo daftay, maadaama uu xanuun saa'id oo dareemayay. Isbitaalka ayayna ula carartay. Xilligaasna ninkeeda ayay ku wargelisay weliba isbitaalka ay joogto. Kadibna isagiina kama uusan dambeyn, isla markiiba isbitaalka ayuu yimid. Dhakhtarka ayuuna xilligaas la kulmay. Dhakhtarka ayaa xilligaas Samuel wuxuu u sheegay in loo baahan yahay wiilkan qalliin degdeg in lagu sameeyo. Samuel oo naxsan ayaana ku yidhi dhakhtar sameey, lacagta aniga ayaa keenaya. Laakiin dhakhtarka waa uu ka diiday, waxaanu ku yidhi aniga qalliin ma samayn karo, ugu horreyn lacagta waa inaad bixisaa. Sidaa darteed aniga qalliin waan kuu samayn karaa. Samuel dhakhtarka ayuu xilligaas ku calacalay, wuxuuna yidhi mudan waan ku baryaa wiilkay, waxaan ka cabsanayo inaga dhinto. Marka qalliinkii ku sameey, aniga ayaana lacagta bixinaya. Kadibna meesha ayuu xilligaasi ka soo cararay dhakhtarkii, isagoon wax jawaab aana ka helin. Isla markiina wuxuu u soo cararay dhankaasi kambanigii walaalkiisa Oscar uu ka shaqaynayay. Xafiiskiisa ayuuna toos u aaday. Xilligaasna walaalkiis ayuu u jilbajabsaday, wuxuuna ku yidhi walaalkay hortayga raali noqo, waan ogahay qalad ayaan galay, taas aniga ayaan kaa raaligelinayaa. Laakiin waan ku baryaa wiilkayga xaalad caafimaad oo degdeg ayuu ku jiraa, weliba qalliin ayuu u baahan yahay. Marka wiilkayga James ii badbaadi oo lacagtaas iga bixi, waan ku baryaa. Kale aan kugu dara, dhakhtarku wuxuu yidhi qalliin lama samaynayo ilaa lacagta ha bixiyo. Marka waan ku baryaa lacagtaas iga bixi, weliba isagoo xilligaas limada ay ka daadanayso. Walaalkiis Felix ayaa xilligaas walaalkiis ku soo jeestay, kadibna waxa uu yidhi oo saaxiiba hadda ma i baryaysaa? Ilaahay aniga xitaa waan aamini lahaa inay baryaysid. Samuel ayaana mar kale baryay, wuxuuna ku yidhi waan ku baryaa mudane, hadda kaftan lama taagna, wiilkaygana xaaladiisa khatar ayay ku jirtaa. Marka waan ku baryaa lacagtaas yarta iga bixi, xitaa aniga ayaa gadaalkaas siinaya. Kadibna xilligaas waxa uu bilaabay walaalkiis Felix inuu ninkii walaalkiisa ku jejeeso. Wuxuu ku yidhi dhib male, aniga ayaa horta lacagta ku siinaye, waxaan kaa rabaa ugu horreyn oo dhulka horta aa fadhiisa ka soo kac oo kursigan hortaada yaalla fadhiiso. Isagiioo xilligaasi ilinta iska tiraya yidhi aad baad u mahadsantahay walaal. Wuxuuna xilligaasi bilaabay kursigii inuu ku fadhiisto, isagoo rajeynaya walaalkiis inuu wax walba ka xalli doono, weliba cunugiisa uu badbaadi doono. Kadibna walaalkiis ayaa xilligaas soo jeestay, isagoo doonaya inuu xilligaasi hadlo, ayaa albaabka waxaa ka soo gashay gabadhaasna qof kale ma aysan ahayn, waa Felix xaaskiisa taasoo Alisa. Kadibna goortay sidaas xafiiska gudaha u soo gashay,
ninkii xilligaasi meesha fadhiyey ee Samuel waxay iska dhigtay inuusan meesha joogin. Kadibna ninkeeda ayay xilligaas u timid, waxayna bilowday meeshii inay ku shumiso. Kadibna waxay ku tidhi, "Ninkayga waxaan ku weydiinayaa waqti yar miyaa haysaa? Waxaan doonayaa inaan arrin yar kaala hadle." Isagiina isla markii waxa uu ku yidhi, "Haa, waqti waa ku helayaa, weliba waqtiga aad u baahan tahay, waana la hadli kartaa." Laakiin isla markiiba walaalkiisa oo meesha fadhiyay ayuu ku soo jeestay, wuxuuna ku yidhi, "Xaaskayga ayaan doonayaa inaan arrimo yar kala hadlo, marka waa inaad bannaanka ku sugtaa, aniga ayaa ku imaanaya." Samuel ayaa xilligaasi bilaabay walaalkiis inuu ku calaacalo, wuxuuna yidhi, "Wiilkayga ayaa khatar ku jira." Laakiin Felix ma uusan dhegeysan, wuxuuna ku yidhi isagoo weliba qaylinaya, "Wax bannaanka taga, aniga ayaa ku imaanaya ayaan ku dhahay, marka waa inaad baxdaa." Samuel oo xilligaasi aamini lahaa waxa uu arkaya isla markiiba kursigii ka istaagay, kadibna wuxuu bilaabay xilligaasi inuu xafiiskii ka baxo. Alice xilligaasi kor ayay ka daawanaysay, Samuelna xilligaas wuu aamini waayey, kadibna kursigii bannaanka ayuu bilaabay inuu isaga fadhiisto. Saacado yar kadibna ninkii Felix ayaa xafiiska ka soo baxay, wuxuuna soo aaday meeshii walaalkiisa uu fadhiyay xilligaasi. Kadibna waxa uu ku yidhi, "Saaxiibow dhegeyso, aniga iyo weliba shirkaddeenna hadda lacagtaas ma bixi karno, mana awoodno, marka mar kale nooga dhig." Xilligaas wuxuu bilaabay Samuel inuu walaalkiisa la hadlo, laakiin Felix xilligaasi walaalkiis ma uusan dhegeysan, isla markiina meesha ayuu xilligaasi ka dhaqaaqay. Samuel oo xilligaasi aamini lahaa wuxuu arkayo riyo inay tahay in kale ayuu yaabay, wuxuuna xilligaas weydiinayay waxa walaalkiisa ka qaldan. Wuxuuna xilligaasi yidhi, "Kaalay, anigoo maanta heerkaani soo gaarsiiyey, weliba waqti badan soo geliyey, muu sidaan ii gelayaa." Isla markiina wuxuu go'aan ku gaaray inuu meeshaani sii sugane, wuxuu bilaabay xilligaas lacag inuu raadiyo. Wuxuu u tegay nin guddoomiye ahay, weliba ay aad isugu fiicnaayeen, arrinkiisa ayuuna la wadaagay, laakiin guddoomiyihii xilligaasi wuu ka gaabsaday. Wuxuuna yidhi, "Aad baan uga xumahay saaxiib, waxa kugu dhacay weliba cunugaaga, laakiin aniga hadda lacagtaasi ma awoodo, marka bal dadka kala fiiri." Isagoo xilligaas aamini lahaa ninkii ugu dhowaay, ayuu isla markiiba meeshii ka cararay. Kadibna wuxuu booqday asxaabtii kale oo weliba aadka u yaqiinay, isagoo xilligaas ka rajaynayay inay lacagtaas oo idil ay ka bixi doonaan, laakiin waa ay ku guuldareystay. Mid walbana xilligaas wuxuu bilaabay inuu isaga barnaamij kala gooni ah u sheegto. "Aan dib ugu soo laabanno." Isaga isla markii wuu soo cararay, wuxuuna soo aaday dhanka isbitaalkii. Dhakhtarka ayuuna xilligaasi bilaabay inuu la hadlo, wuxuuna ku yidhi, "Dhakhtar, waan ku baryaa, lacagtaas wax walba aniga ha igu qaadato, aniga ayaa keenaya, laakiin waxaan kaaga baahanahay wiilkayga inaad operation-kaadii ugu samaysid." Xilligaasi wiilku wuxuu ku jiray qolka, weliba wuu oynayay. Maamada ayaana xilligaasi bilowday wiilka inay dejiso, waxayna dhahday, "Wiilkaygiiyow ha welwelin, wax walba waa ay wanaagsanaanayaan. Tan kale waad ogtahay wiil geesi ayaa tahay, mana doonayo wiilkayga inaad iga dheeraatid, marka iska dhig nin geesi ah. Xanuunkan yarkaana mar dhow ayaa lagaa daaweynayaa." Aabba ayaana lacagtii raadiyey, "Marka isdeji wiilkaygiiyow." Wiilka ayaana xilligaasi bilaabay inuu meeshii ku ooyo, maadaama xanuun saa'id ah uu dareemayay. Hooyadiina xilligaas waa ay la danqanaysay, iyadoo bilowday wiilkeeda xilligaas inay dejiso, weliba ay soo xasuusto sheekooyinka isaga hore ugu ballan qaaday. Wiilkan xilliga hore hooyadiis wuxuu u ballan qaaday in haddii uu weynaado weliba lacag yeesho, inuu hooyadiisa dhankaasi dibadda u geyn doono. Iyadana waxay bilowday sheekooyinkaas inay uga sheekayso, sidaasoo kale waxay ka walwalsanayd ninkeeda iyo weliba waxa uu soo dhihi doono. Ninkeeda ayaana wax yar kadib albaabkii soo galay, xaaskiisa ayuuna xilligaasi waxa uu ka codsaday inuu ayada si gooni ula hadlo, weliba iyadoo xilligaasi aad u murugaysan. Isla markiina waa ay soo dhaqaaqday, wiilka ayaana xilligaasi qolka uga soo tagtay, kadibna ninkeeda ayay u timid. Labaduna waxay soo aadeen qaybta fadhiga si ay halkaas ugu sheekaystaan. Ninkana xilligaas waxa uu dareemayay murugo saa'id ah, maadaama dhakhtarkii uu ka diiday, uuna sheegay inuusan wax qalliin ah uusan samaynayn. Xaaskiisa ayuuna arrinkii la wadaagay, weliba inuu lacagtiisa waayay. Tan kale oo kasii xanuunka badneyd, xitaa wuxuu u sheegay in walaalkiisa uu lacag weydiistay, laakiin walaalkiisa jees-jeesnimo uu lacagta ugu soo diiday. Heshiisa oo xilligaas la danqatay ayaa waxay ku tiri ninkii sii aragtaa, "Haddii aad Alice soo raali gelisid, waxaa laga yaabaa iyada inay kala hadasho, maadaama isaga uu ka dambeeyo." Isaga markuu intaasi maqlo waa uu farxay, wuxuuna yidhi, "Hadda ayaaba ra'yi fiican keentay, iyada ayaan soo raali gelinayaa." Kadibna iyada ayaa la hadlaysaa, wiilkiisa ayuu sii maray waa uuna sii dejiyey. Dhakhtarka ayuuna u tegay, wuxuuna ku yidhi, "Dhakhtar, aniga ayaa lacagta keenaya, wiilkayga operation-ka waa inaad iigu fulisaa, sababtoo ma doonayo wiilkayga inuu iga dhinte." Dhakhtarka ayaa wuxuu ku yidhi, "Hore ayaan kuugu sheegay lacagta bixi, kadib le anigana qalliinkaan samaynayaa." Isagiina isma uusan dhigin, isla markiiba meesha ayuu ka dhaqaaqay, kadibna mooto ayuu isla markiiba soo qabsaday, wuxuuna u soo cararay dhankaas iyo gurigii. Isagoo xilligaasi murugaysan ayuuna gurigii soo gaaray, laakiin xilligaas wuxuu arkay wuxuu aad uga naxay. Ninkii walaalkiisa ee xilligaasi dhahaya wax lacaga ma hayno, ayuu wuxuu arkay isagoo xilligaas xaaskiisa alaabo badan u soo gaday, weliba shopping ay xilligaas ku soo samaysteen, qosol iyo shactarana halkaa isaga jira.
isagiina qolka ayuu ood ku soo galay. Xilligaasna wuxuu bilaabay Aliisa inuu baryo, wuxuuna ku yidhi, Aliisa waan ogahay qalad weyn ayaan galay, weliba adiga ayaan ku dharbaaxay, haddana waan ku raaligelinayaa, marka waan ku baryayaa iska kii cafi, tan kale ninkaada la hadal, wiilkayga xaaladdiisa aad bay u liidataa, adiga ayaana badbaadi kartid, marka waan ku baryayaa la hadal. Iyadii xilligaas markay aragtay aad bay u farxaday, ninkii iswalwaalaya oo maanta hoosteeda fadhiya. Weliba iyadoo xilligaasi bilowday ninkii inay ku dacdacsato, isagana muhiimadiisa mar walba ha u muuqda wiilkiisa, wuxuuna ku yidhi waan ku baryayaa ninkaada la hadal, wiilkayga xaaladdiisa aad bay u liidataa. Iyadiina waxay tiri okey dhib ma leh, haddii ay raaligeliso intaas ayaa iga badan. Isagiina wuxuu bilaabay kursi meesha ku yiilay xilligaasi inuu isaga fadhiisto. Aliisa ayaa isla markiina meeshii ka dhaqaaqday, ninkeeda ayayna xilligaas u tagtay, waxayna ku tiri warbax doqon iyo walaalkaada caawi, walaalka cunugiisa aad ba u liitaa, marka waa inaad lacagta ka soo bixisaa. Isagiina isla markii xaaskiisa kama uusan diidin oo waa uu ka aqbalay, amarkaada ayaa jira ayuuna yidhi. Xilligaas isagiina waa uu soo dhaqaa, walaalkiis ayuuna yimid, wuxuuna yidhi soo bax, lacagta aniga ayaa kaa soo bixinaya. Samuel xilligaas wuu aamini waayey wuxuu arkayo, isagoo faraxsan ayuuna isla markiiba walaalkiis baabuurkiisa soo raacay. Walaalkiis ayaana isla markii baabuurkii waxay la socdeen dhankaas isbitaalkii. Samuel xilligaas farxaddiisa lama qiyaasi karin, maadaama haddeer cunugiisa sidaas loogu badbaadinayo, laakiin taasi ma aysan dhicin. Ninkii Samuel ahaa isla markii baabuurka walaalkiis ayuu ka soo degay markay isbitaalka soo gaareen. Walaalkiisna xilligaas wuxuu bilaabay baabuurka baaki inuu u raadsado, laakiin goortuu sidaas u soo gala doonayeen inuu xaaskiisa farxadda la wadaago, wuxuu arkay arrin aad uga naxay. Wax kalena ma uusan ahayn, xilligaas wuxuu arkay kalkaalisooyinkii oo xilligaasi xaaskiisa celcelinaya, iyadana xilligaasi limada ayaa ka daadanaysay. Hortaysa ninkeeda xilligaas ayada aragtay waa ay soo raday, ninkeeda ayayna xilligaas ku soo booday. Samuel xilligaas waa uu la yaabanaa wax xaaskiisa ka qaldan, waxa uuna ku yidhi xaaskaygii maxaa qaldan, ma wax dhib ayaa jira, maxaadna sidaan ula ooynaysaa, waxaan doonayay warka farxadda leh inaan wada inaan kuu sheege. Xaaskiisa ayaana xilligaas waxay tiri wiilkii waa uuna daayey, isaga xilligaas wuu fahmi waaya waxay ka hadlayso, isla markiina waa uu soo orday, wuxuuna u soo orday dhankaasi weliba qolkii cunuga ku jiray, wuxuuna xilligaasi bilaabay cunugii inuu fiiriyo. Ugu dambeynna halkaas waxa uu ku xaqiiqsaday hadalkay dhehaysa waa uuna daayey, taasoo ay ka wadda wiilkii waa uu geeriyooday. Samuel xilligaasi waxa uu fadhiistay kursi meesha yiilay, waxa uuna bilaabay xilligaas inuu quumeeyo, sababta xilligaas u quumeynaya wax kale maahan, halkii wiil iyaga xilligaasi ay haysteen ayaa halkan uga geeriyooday. Wuxuuna ogaaday qaladka inuu isaga iska lahay, maadaama wiilkiisa uu ka bixi waayey qarashkii isbitaalka. Dhankana soo aadno, walaalkiisa Felix markuu baabuurka soo gaabeegantay, isbitaalka ayuu gudaha u soo galay, weliba qolka iyaga ay ku jireen. Xilligaasna wuxuu arkay iyagoo xilligaa meeshii ku oynaya, isagiina wuxuu isweydiiyey xilliga wax meesha ka qaldan iyo weliba waxa ku dhacay. Isla markiina wuu soo orday, wuxuuna bilaabay bal cunuga yarka inuu fiiriyo. Cunuga ayuuna xilligaas soo dhowaaday, weliba isagoo sankiisa saas u taabtay si uu ogaado inay neef ka soo baxayso, laakiin waxaa xaqiiqsaday inuu geeriyooday. Samuel oo xilligaas aad u caraysanaya walaalkiis ku soo jeestay, wuxuuna ku yidhi ka qaad gacanta wiilkayga, adiga ayaa maanta sababeed inuu halkaani ku geeriyoodo, walaal nuuce ayaa tahay, maxaa kaa qaldan, wariyaa wixii aan kugu soo geliyey tacabkii aan ku soo geliyey, heerkan maanta inaad soo gaartay aniga ayaa sabab u ahay, haddana maanta wiilkayga ayay badbaadi weysay. Noloshayda maan arkin walaalkaa xun, marka waan ku barya halkani ka bax, mid kale aan kugu daro, aniga haddii wixii adiga ka dambeeyey isma sheegano walaalna ma nihin, walaaltinimadeenna halkan ayay ku dhammaatay, marka waa inaad halkani ka baxdaa. Felix xilligaas waa uu dareemay walaalkiis inay xaaladdiisu kacsan tahay, isagana isma uusan dhibin, isla markii meeshii ayuu ka dhaqaaqay. Dhankaasii wuxuuna iska aaday baabuurkiisa, xaafaddiisa ayuuna isaga laabtay. Aan u soo laabano, Samuel xaaskiisa ayuu xilligaas u yimid, waxa uuna bilaabay inuu dejiyo, wuxuuna ku yidhi xaaskii wax walba way wanaagsanaanayaan isdeji, weliba isagoo xilligaas hab siiyey. Meeshii ayayna xilligaas ku murugoodeen, inoo soo celi mar kale. Ninkii Felix ahay gurigiisa ayuu ku soo laabtay, weliba xilligaas waa uu murugaysanay. Aliisa oo dareentay inay wax khaldaynayaan ninkeeda u timid, waxayna tiri maxaa dhacay ninkeygiiyow, isagana xilligaas wuxuu u sheegay xaqiiqda iyo weliba wiilkii yarkaa inuu dhintay, isagana xitaa uu qalad ku leeyahay dhimashada wiilkaasi. Laakiin xaaska ayaa xilligaas bilaabay inay dejiso, waxayna tiri ninkeygiiyow sidaa wax moodaa ma jiraan, wiil kastiisa ayaa qorneeda. Laakiin Felix ayaa ka soo dhex galay, wuxuuna yidhi keliya maaha inuu wiilkaas dhintay, xiriirkii aniga iyo walaalkay halkaas ayuu ku go'ay. Kadibna Aliisa ayaa waxay tiri taasaa dhib leh, aniga ayaa kuu jooga oo gaclisadaadii ah, weliba gaclisa keliya maahiye, walaal iyo wehelba aniga ayaa kuwe, wixii aad walaalkaa uga baahneedna aniga ayaa ku siinayay, marka ninkeygiiyow arrinkaasaa ku murugoon. Felix markuu maqlay isla markii intaasna waa uu degay, wuxuuna bilaabay xaaladdiisa inuu dejiyo. Aliisana arrinkaas aad bay ugu faraxday,
Si kastaba ha ahaatee, maalinka sidaas ayaa looga gudbay. Aan mar kale dib ugu soo laabanno ninkii Samuel ahay iyo weliba xaaskiisa cunuga iyo xilliga isbitaal ka soo qaateen weliba isagoo meyd ah. Aad bayna isaga murugaysanayeen, waxayna bilaabeen wiilka yarka inay iska soo duugaan. Xilligaas ay qabriga joogeenna, Samuel waxa uu bilaabay xaaskiisa inuu dejiyo, wuxuuna yidhi xaaskaygii ha murugoon, wax walba si wanaagsan ayay ku dhammaan doonaan. Tan kale ilmo kale waan heli doonaa, marka murugadan iyo weliba oohinta iska daa. Isla markiina xaaskiisa ayuu meeshii ka soo kaxeeyey. Inkastoo xilligaasi aqoon meel uu seexdo, haddana lacag yar oo xilligaasi haysta ayuu hotel ku kiraystay. Waxayna bilaabeen inay habeenkaas iska seexdaan, maadaama aysan aqoon meel kale ay jiiftaan. Weliba hotelkaas ay kiraysteen hotel raqiis ayuu iska ahay. Xaaskiisii xilligaas way iska seexatay, isagiina wuxuu bilaabay xilligaas inuu fikiro, weliba isagoo xilligaas xasuusanaya wixii dhibaato loo geystay. Xitaa maalin waxaa dhacday, isagoo cunto u baahan weliba baahisa ay dareemayay, ayuu jikada yimid. Kadibna xilligaas Aliisa ayaa ku jirta, waxayna ku tiri, haddii aad u baahan tahay qada inaan ku siiyo, waa inaad alaabtaan oo idila dhaqdaa. Weliba xilligaas xaaskiisa waxa ay ku maqneed dhankaas iyo suuqa, isagana qorshe kale uma aysan bannaanaynna waa uu go'aansaday si uu isaga cunto u helo. Intaasoo idil ayuu xanuunsaday, kadibna wuxuu bilaabay inuu habeenkii idil meel isaga fikiro. Subaxii ayaa la gaaray, Samuel iyo weliba xaaskiisa Dera hoteelka ayay ka soo dhaqaaqeen, kadibna xaafaddii asalka ahay iyo weliba meeshii uu ku dhashay ayuu dib ugu soo laabtay. Ugu dambeynna guri yar ayuu halkaasi ka helay. Gurigii yarka ayayna bilaabeen inay wax yar iska soo dhigtaan si halkaas ugu noolaadaan. Maalmo kadib markuu arrinkooda u fadhiistana, xaaskiisa isma aysan dhigan, aad waxay ugu fiicneed hagaajinta tinta. Kadibna waxay bilowday inay xaafaddii ka dhex bilowdo, weliba ilmaha yarka iskuulka aad intay u hagaajiso. Lacag yar ayayna sidaasi ku samayn jirtay. Sidaas oo kale Samuel isagana isma uusan dhigan, ee waxa uu bilaabay inuu isagana shaqo raadiyo. Wuxuuna bilaabay xilligaas shaqo walba isaga ka soo horbaxday inuu sameeyo. Noloshii yarka ayayna sidaas isaga noolaadeen, inkastoo habeen walba ay soo xasuusin jirtay gabadhani cunugeedii yarka ee ka dhintay. Waqtigu wuu isburay, 8 bilood ayaa ka soo wareegtay. Felix walaalkiis muddo ku dhow 8 bilood sooma uusan wicin, halka walaalkiisa isaga intii yartaa uu shaqaynayay waxa uu ugu dambeyntii ku guulaystay dukaan yar inuu xaafadda ka furto. Dukaankaas yarka ayuuna ka shaqaysanayay ilaa maalin maalmaha ka mid ah. Dukaankiisa yarka isagoo ka shaqaysanaya, baabuur lagu soo horbaakimay. Xilligaas wuxuu u malaynayay baabuurkani inuu xilligaas uu ka soo degayo qof macaamiil ah, weliba alaabo baahan. Laakiin xilligaas Aliisa ayaa ka soo degtay, kadibna waxay soo aaday ninka dhinaciisii, waxayna bilowday ninkii inay ku jejeesto. Waxayna tiri, oo kaalay 8 bilood ee weliba gurigeenna ka maqneed, ma dukaankan yariiska ayaad furatay? Iyadoo weliba xilligaasi bilowday inay aad ugu jejeesto, tiri, ayay muujintaa nolosha faqiirtinimada ku nooshahay. Khaladkii yarka aniga iga gashay ayaa maanta tan kuu sababtay. Tan kale cunugeed waa uu ka dhintay, horta aad baan uga xumahay. Kadibna meesha ayay xilligaas uga dhaqaaqday, baabuurkeeda ayayna ku laabatay. Baabuurka ayayna xilligaas sidaas u dhaqaajisay. Sidaas u dhaqaaqday ninkii Samuel ahay, kursigiisa ayuu xilligaas kaga fadhiistay, wuxuuna la yaabanayay sida dhaqan xumada xilligaas ula hadashay. Laakiin wax yar kama ay soo wareegan, mar kalena baabuur ayaa dukaankiisa yarkaas hor istaagay. Xilligaasna wuxuu u malaynayay inuu yahay ninkii walaalkiisa ahay, oo laga yaabay inay xaaskiisa arrinkaas ay gudbisay. Isagana markaas isma uusan dhibine, kursigiisa ayuu xilligaas isaga dalleecsaday, isagoona xilligaas una haysan qofkan inuu macaamiil yahay. Laakiin baabuurka xilligaas waxaa ka soo degay ninkaasna nin kale ma uusan ahayn, waxaa lagu magacaabaya Michael. Goortuusan ninkii sidaas u arkay, indha ayaa ka saaray, weliba wuu aamini waayey. Wuxuuna yidhi si camal saaxiibkaana meeshan muxuu ka soo doonay? Michael ayaa xilligaasi baabuurkii ka soo degay, wuxuuna u soo dhaqaaqay dhankan iyo saaxiibkiisa Samuel. Isla markiina labadooda halkaas ayay hab isku siiyeen. Weliba Samuel xilligaasi wuu aamini waayey inuu saaxiibkiisa halkaani ku arkayo, weliba baabuurkan qaaliga wato. Kadibna labadoodii waxay bilaabeen inay meesha ay ku sheekaystaan. Michael ayaana xilligaas ku yidhi, saaxiibow si camal dukaanka yarkaana maxaa waaye? Markaasuu Samuel yidhi, saaxiibow sheekadan waa sheeko dheer, marka kaama sheekay karo. Michael ayaa xilligaas yidhi, ka waran saaxiib aan haddii baabuurkaan isla raacno, dukaanka dhammaa iska soo xirtid, waxaan doonaynaa inaan sheekayno, waxaan doonaya inaan ogaado sheekadaadii leh. Isagiina kama uusan diin uu ka aqbalay. Dukaanka yarka ayuu xilligaas quful ku taagay, kadibna baabuurka ayuu gudaha u soo galay. Kadibna Michael ayaa xilligaas yidhi, saaxiib waxaan doonayaa sheekadaada inaan ogaado, waxaan ku ogaay adoo nin taajir ah, sidee ay islaan kugu dhacday ii sheeg. Xilligaas Samuel wuxuu bilaabay saaxiibkiisa wax walba inuu u sheego, weliba walaalkiis sida uu u galay, guriga uu ka soo celiyey, cunugiisa yarka oo ka dhintay. Goortuusa Michael intaasi maqlay, saaxiibkiis waa uu ka danqaday. Sidaasoo kale Samuel ayaa xilligan wuxuu ku soo dhiibay saaxiibkiis, wuxuuna ku yidhi, saaxiibow bal ii waran horta adiga maxaa ii kaa dambeeyey? Isagana Michael wuxuu bilaabay inuu uga sheegayo taariikhdiisii hore, iyo weliba markii ninkan uu caawiyey. Xilli waxaa jirtay ninkan Samuel uu ninkan Michael caawiyey mar uu xaaladiisa liidatay. Isagana xilligaas magaaladii uu joogo waa uu ka tegay ninkan Michael. Kadibna nin caddaan ayuu shaqo ka helay,
ilaa ugu dambeyntii ninkiiba shirkadayda lagu wareejiyey maamulna uu ka noqday noloshaas oo idil ayuu u sheegay weliba hadda weli inuu shirkadda uu ka shaqaynayo isagana maamulka uu ka yahay samuel markuu intaasi maqlo waa uu yaabo wuxuuna yidhi saaxiibow qaar adduuna adiga kuu jaway laakiin aniga halkaana ii dhegtoo yire michael ayaa xilligaas yidhi saaxiib horta aad baan uga xumahay waxa kugu dhacay tan kale walaalka waxa uu kugu sameeyeen aad baan uga xumahay taasna kamaanan filinayn tan kale wiilkaadana waa kaaga tacsiinaya iyo weliba geerida ku timid ee ka waran saaxiibo haddii shaqo aan ku siiyo weliba shirkaddan aan ka shaqeeya boos ayaa ka bannaan ee adiga haddaan ku fadhiisiye ka waran xilligaas weliba isagoo lacag $300 soo bixiyey fartana ka saaran wuxuuna ku yidhi adiga noloshan hadda isku maaray oo dukaankan iska soo xir shirkaddii ayaana ka shaqo bilaabaysaa tan kale aan kugu dare shirkadda hadda aad ka shaqaynaysa ogow waxaa lagu siinayaa meel aad degtid micnaha guri adiga aad leedahay gurigaas ayaana ku noolaanaysaa isagina isla markii aad buu ugu farxay arrinkaasi saaxiibkiis ayuuna xilligaas u mahadceliyey wuxuuna ku yidhi abaalkaas waan ku gudi doonaa isla markiina saaxiibkiis meesha ayuu ka dhaqaaqay samuel dukaankii dib uguma uusan laaban isagoo faraxsan ayuu soo cararay dhankaasi xaafadda ayuu soo aaday si uu arrinkan farxadda leh xaaskiisa ula wadaago bal waxay intaan ka hakanaanaadna dhankaasi ninkii falankiisa ahay shaqadiisa ayuu xilligaa ka soo baxay kadibna guriga ayuu xilligaa ku soo laabtay xilligaas oo guriga imaanaya waxaa joogta saaxiibadiisa aliisha iyo weliba gabar kale ay saaxiibo yihiin meesha ayayna ku sheekaysanayeen isagana goorta uu gurigiisa usoo galay kor ayuu ka sinaamay kadibna qolkiisa ayuu toos u aaday isagoo weliba qolka jeefka iska aaday xilligaas aliisha kama aysan dambayne gabadhii saaxiibadeed iyo halkaasi ku macsalaamaysay waxayna u sheegtay in mar kale ay kulmi doonaan iyadiina xilligaas way iska tagtay isla markiina aliisha ninkeeda kama aysan dhawaanina qolkay xilligaas kasoo daba gashay markaas ayay bilowday ninkii inay warka u sheegtay weli xumaantay la soo kulantay waxayna tiri ninkaygiiyow war news ayaan ku hayaa ka war haddii aan kuu sheego isagana wuxuu yidhi maxaa waaye iidin ismaysan dhimin waxay tiri maanta waxaan soo arkay kii walaalka ahay ogtaa meesha uu ka shaqaynayay haddii aad xitaa adig marnaba kuma soo dhacay ismana isdheedsi kanaya walaalka isaga xilligaas yaaban ayaan wuxuu ku yidhi maxaa waaye ii sheeg meesha uu ka shaqaynayay waxayna u sheegtay xaafad yaroo baadiya weliba magaalada banaankeeda inuu halkaas waxyaabo dhir ku gadayay waxayna u sheegtay ninkii inay halkaas maanta ay ku saaratay isabiina isma uusan dhibin wuxuu ku yidhi okay intaas leemiya laakiin xilligaas waxaa jira ninkan war inuu ku taagnaay iyo weliba wax maskaxdiisa ka guuxayay iyadana xilligaas waxay dareentay ninkeed inuusan faraxsanayn oo weliba la qoslayn kadibna waxay weydiisay oo waxay ku tiri xaaji aan ku weydiiye maanta shaqadaada maalintaada ma xumeed maxaa dhacay jawigaada ma saxna maante laakiin xilligaas warka ku taagna wax kale ma ahayne isaga xilligaas waxa uu doonayay inuu aabba noqdo 2 san ayuuna wuxuu qabay islaantani wax ilmana uma aysa dhalin dhakhtar ayuu xitaa tegey dhakhtarka ayaa xilligaas wuxuu u sheegay isagu xaaladiisa inay fiican tahay uusan wax qabin sidaas oo kale dadka asxaabtii inay shirkadda iskala shaqeeyaan dhammaantooda markii iyaga uur loo qaado waa ay ku faanaan laakiin isaga waxuu ku faana ma leh sababtoo xaaskiisa 2 sano ayuu qabaa ilaa haddana wax ilmo uma aysan dhalin kadibna waxa uu ku yidhi aliisha dhegayso anigu waxaan doonayaa inaan aabba noqdo waxaana kaa rabaa inaa ilmihii dhashid 2 sano ayaan isqabnaa ilaa haddana wax ilmo aadna dhalin xilligaas aliisha waa ay dareentay kadib ninka ay bilowday xilligaasi inay isku oysiiso waxayna tiri ninkaygiio hadda maaniga eedda ayaa dusha iga saaraysaa oo micnaha waxaad leedahay aniga ayaa soo waa inay ilmo meeshii maa waayaan ninkaygiio maxaa sidaas ila hadlaysaa weliba iyadoo xilligaas ooyin ku duuratay kadibna ninka ayaa bilaabay xilligaas inuu dejiyo wuxuuna ilmaya xaaskayga sida wax moodo ma jiraan laakiin waxaan kuu sheegay inaan ilmo u baahanahay kadibna xaaskiisa ayuu bilaabay xilligaas inuu habsiiyo isagoo dejinaya wuxuuna yidhi adiga qaladka ma lihid ilmahana waa iska sugaynaa aliishan intaas ayay rabtay oo intii ay sidaas ku sii wadatay inkastoo ninkan falakis xillaa uu xilligaas dareemayay qaladka uu walaalkiisa galay iyo weliba halkii wiil ayaga haysteen inuu isaga dartiis u dhintay si kastaba haddee waxay dhintaan ka nasanno bal mar kale aan dib ugu laabano ninkii samuel ahay samuel isagoo aad u faraxsan ayuu guriga xilliga ku soo laabtay xaaskiisana waxay iska fadhiisay guriga aad bay isaga murugaysaneed sababtii u murugaysanaydna wax kale ma aysan ahayne maanta sooma aysan shaqayn waxayna ka fekeraysa waxay cuni lahaayeen ninkeeda marka uu soo galay isagoo faraxsan waa ay yaabtay kadibna hab ayuu siiyey wuxuuna ku yidhi xaaskaygii bishaarayso war fiican ayaa noo hayaa nin aan saaxiibo ahayn kaasoo lagu magacaabayay michael ayaa shaqay siiyey lacag ayuuna farta iga soo saaray marka lacagtan wax noogu sameey oo wax noogu gadgad iyadii marka intaasi maqasho waa ay farxda ninkeeda ayayna habtiisay inkastoo xilligaas oo dhan ay xasuusinaysay wiilkeed yarka james maadaama isaga ay aad ugu xiistay oo ay ahayd halkii wiil ay haysteen subaxiiga markii la gaaray ninkii samuel ahay dhar yaro u qurxoon u meesha yiilayo isla markiiba isku soo taagay boorsidiisna gacanta ku qabsaday kadibna shirkaddii loo tilmaamo ayuu soo aaday oo saaxiibkiis ayuu halkaasi kula kulmay oo saaxiibkiis kamay damayna bannaanka ayuu ku sugay isla markiina halkaasii gudaha ayuu u qaado weliba isagoo aad u faraxsan samuel xilligaas ma uusan aamini karin michael ayaana bilaabo inuu saaxiibkiisa soo tuso xafiiska sida uu ku shaqaynayo kadibna wax walba sidaas ayuu kusoo kala baray isagoo xilligaas faraxsan ayuu wuxuu ku yidhi
sabab hadda aan ku tusay guriga aad degi iyo weliba baabuurka aad ku shaqaynayd maadaama shirkad intaasoo idil ay bixinayso isla markiina bannaanka ayuu u soo saaray wuxuuna halkaas ku tusay baabuur aad u qurux badan markuu ninkii Samuel arkay aad buu u farxay weliba uu aamini waayey kadibna labadooda gudaha ayay galeen oo waxaa ninkii loo soo kaxeeyey guriga uu degi lahay ugu dambeynna gurigiisa ayaa la geeyey 2 bilood ayaa ka soo wareegatay ninkii Samuelna noloshiisa way isbedeshay hal jeerna wuxuu ahaa nin shirkadda aad ugu dadaala weliba wax soo saarkeeda mar walba kor u qaadaa xilli galaba shaqada ayuu ka soo baxay weliba xilligaas aad buu u daalanayay kadibna gurigiisa ayuu ku soo laabtay xaaskiisana hal jeer waxay samayn jirtay inay cunto u diyaariso miiskana u sii saarto isagana miiska ayuu toos u aaday xilligaas ayuuna bilaabay gacmaha marka hore inuu iska dhaqo ayuu daboolkii saxan ka qaaday halkaasna waxa uu ku arkay warqadda xilligaasna wuxuu xaqiiqsaday inay xaaskiisa uur leedahay sababta ah markii hore iyada uurka qaaday sidaan si lamid ah ayay samaysay isagana markuu intaas arka aad buu u farxay weliba uu aamini waayey isagoo warqaddii xilligaas qabtay bilaaban inuu fiiriyo kadibna xaaskiisa ayuu xilligaasi bilaabay inuu ku soo ordo hab ayuuna siiyey wuxuuna yidhi xaaskaygii aad baan kuu jeclahay weliba waxaan aad ugu sii faraxsanahay warkan quruxda badan aad ii soo jeedisay iyadiina sidaasoo kale waxay tidhi ninkaygu aad baan ku jeclahay isla markiina waa ay dhaqaaqday ninkayana xilligaas bilaawday cuntadii inay u keento isagana cuntadii ayuu halkaasi ku cunay arrinkaas sidaas ayaa loogu gudbay 2 maalin markii ay ka soo wareegatana ninkii Michael ayaa dhammaan dadkii ku lahay shirarka shirkaddii uu ka shaqaynayey wuxuu isugu amray inay shir isugu imaadaan iyagoo xilligaas loo sheegay in shirarka lasii ballaarinayo laakiin xilligaasi dadkii ka soo qayb galay weliba doonayay sheerka inuu meesha ka qaato waxaa ka mid ahay ninkii Felix ahay Felix isagoo meeshii jooga ayaa ugu dambeyntii waxaa meesha yimid Michael iyo weliba Samuel goortuu arkay ninkii Felix walaalkiisa uu aamini waayey wuxuuna xilligaas weydiiyey waxa uu meesha ka samaynayo sababtoo ma uusan filaynin walaalkii nolol noocaan inuu soo geli doono laakiin xilligaasi Samuel uu gudaha u soo galay walaalkiis ayuu indhaha ku dhuftay weliba uu aamini waayey isaga laftirkiisa wuxuuna is yidhi shirkaddan adiga ka shaqaynaysay muxuu ka soo doonay isla markiina Michael ayuu weydiiyey wuxuuna ku yidhi Michael ninkani meesha muxuu ka samaynayaa weliba isagoo caraysan kadibna wuxuu u sheegay inuu ka mid yahay dadka sheerarka ku leh ee adiga mataqaana Samuel ayaana xilligaasi yidhi waa midkii walaalkay ahay weliba noloshiida burburiyey isaga ayaana sabab u ahay maanta noloshii aad iga soo kaxaysay inaan ku jiro goortoosa maqalay ninkii Michael wuu aamini waayey waxaasi kadibna waxa uu ku soo jeestay Felix wuxuuna ku yidhi wax ka bax oo committee hadda ka dambeeyay shirkadeenna wax sheerna kuma lihid sababtoo waxaad tahay qof xun walaalka ayaana sidaan u gashay mana adigoo kalena uma qalanti inaad shirkaddan aad sii joogtid Felix goortuu intaasi maqla wuu aamini waayey isla markiina kursiga uu ku fadhiyey ayuu isla markiiba ka kacay kadibna meesha ayuu xilligaasi ka dhaqaaqay ninkan inta badan waxa uu samayn jiray shirkadaha uu doonayay sheerarka inuu la galo inta badan waa uu leelooshi jiray si uu barnaamijkaas meesha uga helo shirkaddaasna uu gacan ugu yeesho laakiin maanta ma aysan dhicin oo xaaladdii waaba laga soo xidhay walaalkiis ayaana u wacnay si kastaba ahaatee markii uu sidaas u baxay Michael ayaa waxa uu la hadlay dadkii kale ay ka soo qayb galay barnaamijka isagoo u sheegay in arrinkaas aan wax laga soo qaadin ugu dambeyntiina shirkoodii si wanaagsan ayuu ugu soo dhammaaday goortoosa dadka ay sidaas u kala tageen ninkii kale ee Samuel isagana kama uusan dambeyn wuu soo baxay wuxuuna doonayay xilligaasi inuu xafadiisa soo aado laakiin goortuu baabuurka sidaas u soo galay wax yarna dhaqaajiyey ayaa baabuur kale hortiisa lagu jaray isagana xilligaasi ma uusan ogeyn baabuurka ayuuna baakintay isagoo xilligaas weydiinaya qofka baabuurka hortiisa ku jiray goortoosa sidaas uga soo degay halkaas wuxuu ku arkay ninkii walaalkiisa ahay weliba isagoo aad u caraysan Felix oo aad u caraysan ayaa walaalkii Samuel ku soo jeestay wuxuuna ku yidhi kaalan ku weydiiye sidee halkaani ku timid tan kalaan ku weydiiye ma waxaad doonaysaa booskii aniga qarashka badan aan ku bixiyey inaad igala wareegto taas lagama yaabo inay dhacdo marka waxaan ku leeyahay aniga horteyda ha istaagin Samuel oo laftirkiisa xilligaasi caraysna ayaana walaalkiisa ku yidhi aniga dhegayso hore ayaan kugu sheegay aniga adiga wax xiriir nagama dhexeeyo walaaltinimadeeni waa ay gooday marka cunuggii yarka uu dhintay mid kale kuugu daree inay kambanigan ayaa ka shaqeeyaa adigan hanaysan mar dambe inaad meeshana ku soo laabatid weliba isagoo aad u caraysanayon isla markiiba baabuurkiisa gudaha u galay Samuel wuxuuna ku yidhi horteyda ma hadday istaagtay la soco baabuurka ayaan kugu dhufanayaa kadibna baabuurka ayuu sidaas u dhaqaajiyey laakiin Felix xilligaas wuu aamin waayey wuxuu arkayo weliba wuxuu u maleynaya inuu riyoonayo wuxuuna ku yidhi okay hadda iska baax laakiin waxaan ku tusi doonaa wejigayga dhabta ah ogow sidaan haddii aan wax ku sii wadinna wejigayga saxda ayaan kuula soo bixi doonaa kadibna Samuel siimo u sugine meesha ayuu ka dhaqaaqay Felix laftirkiisa baabuurkiisa ayuu gudaha u soo galay weliba isagoo xilligaas aad u caraysan caradiisana ay aad u sarayso kadibna guriga ayuu xilligaas ku soo laabtay goortoosa gurigii sidaas u yimid wuxuu arkay xilliga xaaskiisa oo wax ka qarinaysa weliba dhanka dambe wax ku haysa kadibna wuxuu weydiiyey waxay hayso iyadana xilligaas aad bay u naxday neeftuurka ayaana ka soo baxaya kadibna waxa ay tiri
wax kale ma ahan ee wax waa dumarka loogu talagalay marka iska daa iyadoo isla markiiba meeshii ka dhaqaaqday kadibna qolkii gudaha u gashay. Felix oo xilligaas yaabanaya wuxuu isweydiiyey xaaskiisu waxa ay ka qarinayso. Haddaba daawadiga laftirkaada waxaa is leedahay waxaas waa ay noqon karaan waa waxa dadka oo dhan qarribaya. Si kastaba ha ahaatee ninkii iskuma hoosay dhibin aad buu u caraysanaa walaalkiis ayuuna la yaabanaaye qolkii fadhiga ayuu xilligaas ka fadhiistay. Xaaskiisana kama aysan dambeen alaabtii ay wadatay ayay qolka ku soo xareystay kadibna ninka ayay xilligaa u soo laabatay waxayna ku tiri ninkaygiiyow maxaa dhacay maanta waa caraysan tahay yaa kaa soo xanaajiyey isagoo xilligaas caraysanayuuna wuxuu ku yidhi wax kale ma ahane ma ogtahay shirkaddii aan ku dhahay waxaan doonayaa sheer inaan ka helo iyadiina xilligaas waxay tiri ha maxaa dhacay markaasuu yidhi ma ogtahay maanta waxaan kala kulmay shirkaddii markaas tiri maxaa kala kulantay isagana waxa uu yidhi shirkaddii aan doonayay sheerka inaan ka helo waxaanba halkaasi ku arkay ninkii walaalkay ahaa ee Samuel weliba isaga dartiis ayaaba shirkaddii liiga soo ceeriyey oo sidaas sheerkii aan ku loosgareeyey. Aliisa oo xilligaas si yaabanayaana tiri ma wax saxa ka hadlaysaa isago laakiin ninkaas walaalkaa ku noqday inuu heerkaasi ku gaaro isaga dartiisna shaqada lagaa soo celiyo sababtoo anigu waxaan xasuustay 2 bil ka hor inuu meel dukaan yar ka shaqaynayey siduna 2 bilood gudahooda isugu beddelay noloshaanna uu soo gaaray. Felix ayaana xilligaas yidhi aniga xitaa waan la yaabanahay oo waan su'aasha isweydiinayo sababtoo walaalkay kama aana filanayn nolosha noocaas inuu gaari doono. Laakiin xilligaas ayuu wuxuu ku yidhi Aliisay bal ka warran haddii aan sameeyo haddii aan la hadlo walaalkay sababtoo shirkaddaas waxaan u baahanahay sheerka inaan ka helo si horagtay haddii aanan la hadlo isaga aana baryo sidaasna arrinkaan ku xallinno. Laakiin Aliisha arrinkaasi gaashaanka ay u daruurtay waxayna tiri ninkaygiiyow gacaliyahaygii weerkaygiiyow sidee u hadlaysaa maxaana kaa khaldan ma waxaad doonaysaa ninkaasi faqiirka ah inaad u tagto aad barisid adiga ma aha qofka lagaaga baahan yahay inaad barisid ee waa asaga inuu ku imaadaa kadibna uu ku baryaa marka waan ku baryayaa hana ceebeen sharaftana hanaga dilin waad ogtahay waxaana qoystaa jirine goortuus intaas ninkii maqlay xamaasad ayuu ka qaaday iyadana hadalkiisii ma aysa joojin intii istaagtay ayay tiri gacaliyahaygiiyow waan ku ogahay nin geesi ayaa tahay ee sharafteenna kor u qaad mar walba. Ninkii Felix markuu intaas maqla wuu carooday wuxuuna ku yidhi walaalkayow intii aad igu samaysay ka badan ayaan kugu dhigi doonaa weliba waad ka shalay doontaa isagoo isla markii meeshii ka dhaqaaqay qolkiina gudaha u galay. Xilligaas sidaas u baxana ayaa Aliisii meeshii intay ka istaagtay wadnaha farta saaratay tiri iga tagdhe sirteeda ayaa maanta fashilmi rabtay oo arrinkayga ayaaba soo gabagoobi rabay isla markiina waa ay soo dhaqaaqday ninkeeda ayay soo raacday. Haddaba maxaa is leedahay sirtaas waa ay tahay dadaal baa ka ogaa doontaase. dhanka kalaan soo adno ninkii Samuel ahaa gurigiisa ayuu ku soo laabtay xilligaas uu guriga ku soo laabanayana xaaskiisa qolka fadhiga ayay fadhiisay kadibna wuu u yimid wuxuuna u sheegay maanta inuu shirkaddii arrin kala soo kulmay weliba walaalkiisa halkaas uu ku arkay. xaaska ayaana xilligaas waxay ku tiri oo aan ku weydiiye markuu isaga shirka uu ka soo qayb galay wax raaligelina ma ku weydiistay. Samuel ayaana xilligaas yidhi raaligelin iska daa xitaa shirkii meesha uu joogay ayuu ka baxay weliba isagoo aad u caraysan. Kadibna gabadhii deer ayaa xilligaas waxay ku tiri ninkaygiiyow mid aan ku siiyo oo micnaha talo fiican aan ku siiyo waad ogtahay walaalka aad buu u caraysan yahay waxaan ka cabsanaynaa nolosha inuu khatar geliyo marka waan ku baryaa ninkaasi ha u dhowaan oo mar walba ka dheerahow si uusa adiga waxyeello kuu soo gaarsiin. Sidaasoo kale Samuel wuxuu u sheegay in xitaa markii uu soo baxayay oo waddada kula kulmay aadna u caraysanay. kadibna deer ayaa tiri ninkaygu waan ogahay nin geesi ayaa tahay laakiin hadda ayaa nolosha bilownay oo nolosha faqiirtinimada aan ka soo baxnay marka waan ku baryay xaaladda deji ninkaasna intii aad ka fogaa kartid waa inaad ka fogaataa. Samuelna waxa uu ku yidhi xaaskaygii warkaada ayaa jira haddana baahi ayaan dareemayaa ee waa ku baryaa baxyiken iyadina isla markii waxay tiri diyaar waa ninkaygiiyow laakiin taladaas aan ku siiye qaado sababtoo aan nolosha ma doonayo inay hadda naga burburto. isla markiina waa ay dhaqaaday dhankaasi jikada ayay aaday ninkii ayaana xilligaasi bilowday cuntadiisa inuu keento isagana cuntidiisa ayuu cunay. maalinkaas waa u gudbay maalinkii laad markii la gaarana ninkii Michael Samuel ayuu xafiiskiisa ugu yeeray kadibna waa ula hadlay waxauna ku yidhi wixii falakis uu kuu sameeyey aniga ayaa kaga soo hargudaya ha ku welwelin weliba aniga la diilgaraynaya shirkad walba oo leeyahana aniga ayaa cagta u saaraya. goortuusa ninkii kaasi maqlay Samuel aad buu u farxay wuxuuna ku yidhi mudan aad baan kaaga mahadcelinayaa karabti istaag waan aadii samaysay. Michael ayaana xilligaasi ku yidhi maya aniga keliya waxaan kuu gudayaa wixii adiga aad horey igu samaysay. kadibna waxa uu ku yidhi hadda waa iska laaban kartaa oo xafiiska iska aad. asbuuc markii ay ka soo wareegatay ayaa ninkii Michael maalin maalmaha ka mida wuxuu soo aaday maqaayi inta badan oo ka cuntay jiray xilligaasna qadaha ayuu doonaya inuu cuno kursiga ayuuna ku fadhiistay waxuuna sugayey waytarka inta uga soo imaanayo. laakiin xilligaasi waxaa meesha yimid ninkii falakis ahay kadibna waxa uu ku yidhi mudana waan ku salaamay. Michael ayaa isla markiiba ka qaaday wuxuu yidhi waan kaa qaaday ee aan ku weydiiyey kuma tahay waxaana kaa caawiyaa. falakis ayaa xilligaasi yidhi anigu waxaan ahay falakis ninkii doonayey sheer inuu shirkadaada ka helo laakiin maalin shirka ka tegey
kadib xilligaas wuu xasuustay Michael wuxuuna ku yidhi, "Okay, sida ayaan ku caawiyaa." Felix ayaa xilligaas yidhi, "Waxaan doonayaa arrin yar inaan kala hadlo haddii aadna dhib u arkaynin." Isla markiina Michael wuxuu ku yidhi, "Waa fadhiisan kartaa, wax walbaad u baahan tahana waa ii sheegi kartaa, sida ayaan ku caawiyaa." Felix isla markiiba waa uu fadhiistay, kadibna wuxuu ku soo jeestay Michael waxauna ku yidhi, "Michael, waan isku kaa sheego, aniga Samuel ayaan walaalo nahay. Samuelna la soco, noloshii horta waxba kama ogid, aniga ayaa og. Ninkaas shirkad walba uu gacanta geliyo ama uu ka shaqeeyo waxa uu ka shaqeeyaa siduu shirkaddaas u burburi lahay. Waana sababta aniga laftirkeyga aan u kala fogaanay, shirkaddeydana aan uga ceeriyey. Sababtoo shirkaddeyda ayaa waxaan ku arkay inuu lacago badan ka xadayay. Ninkaasna waxaan xaqiiqsaday tuug inuu yahay. Sidaa darteed ayaan adigana doonayaa runta inaan kugu sheego. Midda kale saan kugu daro, markii shalay uu ku yidhi ninkan shaqada ka ceeri, weliba macnaha iyuusan shirkeena ka soo qaybgelin. Wax kaloo ma uusan dhihin, wuxuu ogyahay haddii meeshaas aan ku soo biiro in isaga arrinkiisa uu fashilmi doono. Michael ayaana xilligaas yidhi, waan gartay, waan ku fahmay. Aniga ayaa ninkaas indhaha ku hay doona." Felix ayaan isla markiiba kaarkiisa u dhiibay waxaana ku yidhi, "Wadana waa ila soo xiriiri kartaa, waa haddii wax caawimaad iga baahatid." Michael oo kaarka ka qaatay ayaana ku yidhi, "Aad baad u mahadsan tahay." Felix isla markiiba waa uu soo dhaqaaqay baabuurkiisa ayuuna soo kaxaystay. Laakiin intii uu waddada marayay ayuu kor walaalkiisa ka arkay. Isla markiina baabuurka ayuu xilligaasi ku soo horjaray. Samuel waa uu dareemay walaalkiis inuu yahay, laakiin xilligaas wuxuu qaatay taladii xaaskiisa, taasoo ahayd ninkaas inta uu ka fogaa karo inuu ka fogaado, isagana uu farihiisa gala gelin. Isagiina wuu ka aqbalay, baabuurkiisa ayuu ku sugnaaday. Laakiin Felix oo xilligaasi caraysanaya baabuurkii ka soo degay, kadibna wuxuu soo aaday dhankaas iyo weliba baabuurkii walaalkiisa uu ku jiray. Isagoo caraysanayana wuxuu ku yidhi, "Wixii aad igu samaysay, weliba shirkaddii ay la wareegtay, haddii asbuuc ay igu soo celi weyso, waxaan kuu dhigi doonaa cashir aad marnaba hilmaamin." Isagoo isla markii sidaas ku dhaqaaqay, bal wax yar aan dib u laabanno. Felix subaxaas oo xaafaddiisa ka soo tegayay, xaaskiisa markuu hubsatay inuu ninkii meesha ka tegey, wax yar ay isla markiiba soo qabsatay, kadibna waxay bilowday inay furto. Halkaasna waxay ka soo saartay dhala yar. Dhaladaasna xilligaas waxa ay saartay miiska iyada horteeda. Dhaladaasi gudaheeda waxaa ku jiray tin yar iyo weliba kaadi yar, taasoo iyada hore u qorshaysay. Dhinaca kalena waxaa yiilay tiish yar. Tiishkaasna kor waxaa ka saarnay sawir iyada ay samaysay. Sawirkaasna wax kale ma ahane waa Felix oo iyada fiirinaya, halka isagoo walaalkiisa ka sii jeesanaya. Samuelna walaalkiisa uu sii socdo. Balse aan sheekadan u fahanno iyo weliba meeshay dhaladani ka imaataan dib u laabanno. Felix gabadhani marka uu soo guursaday maalin maalmaha ka mid ah, labadoodu waxay soo aadeen guriga Samuel. Xilligaasna Alicia waxay xaqiiqsatay in ninkan Felix walaalkiisa uu aad u jecel yahay, weliba mar walba uu garab siinayo. Keliya intaasi ma ahane, maalinkaas xitaa waxay aragtay in ninkan Felix uu cunuga yarka ah ee James ee dhimanayay, oo xilligaas uu ballan qaaday waxbarashadiisa inuu isaga bixi doono. Laakiin xilligaas Alicia arrinkaas uma aysan begin, ma aysan ku farxin. Waxayna tiri, "Halay, ninkan maxaa ka qaldan? Wuxuu adiga kula tashi waayey intii cunugaas uu ballanta u samaynin, xitaa la tashi la'aan ayuu waxaasi sameeyey." Iyadana arrinkaas aad bay uga xarootay. Kadibna labadoodu waa ay soo baxeen oo gurigooda ayay ku soo laabteen. Haweenkii ayayna ninkeeda la hadashay, waxayna ku tiri, "Ninkaygu yaan su'aal ku weydiiyo, sidee u samaysay anigoona waxay la tashan, waxna ay weydiin, sidee cunugaas ugu ballan qaaday waxbarashadiisa oo idil, iyo weliba inta uu noolaanayo, sidee camal ah?" Markaas uu ku soo jeestay oo yidhi, "Maxaa ka khaldan xaaskaygiyey? Tan kale, ma ogtahay walaalkay horta intuu ii soo sameeyey, isaga la'aantiis maanta heerkan soo ma aana gaadhin. Tan kale aan kuugu daree, wax walba uu ii sameeyey, ani waxaan doonayaa inaan u gudo. Marka waan ku baryaa arrinkan mar dambe igala hadin, waxaan samaynayana aniga aqaana. Walaalkay dhinaciisana mar dambe ha iga soo marin." Alicia xilligaas way carootay. Felix isla markiina meesha ayuu ka dhaqaaqay. Kadibna waxa uu ku yidhi isagoo siis dalleecanaya, "Ogow, mar dambe haddii arrinkaas igala hadashid walaalkay, wixii kugu dhacay adiga ayaa isku dhigtay, gurigaana waa ka bixi doontaa, oo haddii dhankaasi mar kale ay iga soo martid." Alicia arrinkaas wuxuu ku noqday dab naareed oo wadnaha looga dhuftay, iyadiina aad bay arrinkaas uga carootay, iyadoo xilligaasi xasuustay saaxiibadeeda qofka lama ahane waa Fadumo, waxayna go'aansatay inuu tagto. Inkastoo xilligaas ninkan Felix ay ka filaysay inuu xitaa raaligelin u samaynayo, ma aysan dhicin. Laakiin isla habeennimadii ninka wuu u soo laabtay, kadibna wuxuu bilaabay inuu raaligeliyo. Wuxuuna ku yidhi, "Xaaskayga iga raali noqo, wixii maanta dhacay waan kaa raaligelinaya, weliba qaylada aan kugu sameeyey. Hadda wixii ka dambeeyana waa isla wada hadli doonaa." Laakiin ayada xilligaasi uma aysan muuqan ninkan waxa uu leeyahay. Iyadoo caraysanayana waxay ku tidhahdeen, "Qolkaada seexo, anigana qol kale ayaan jiifanayaa." Subaxiga markii la gaarana, isla markii waa ay soo baxday. Saaxiibadeed Fadumo ayayna xilligaasi gurigeeda ku soo booqatay, kadibna arrinkii ay u sheegtay weliba dhibaatada ay marayso. Fadumo xilligaas ku qosashay ayaana tiri, "Saaxiib horta aad baan uga xumahay, laakiin xalka aniga ayaa ku haya, waa haddii adiga diyaar aad tahay." Xilligaas markii gabadhii maqashay Alicia, aad bay ugu faraxday, weliba way aamini weysay. Waxayna tiri, "Walaalay, xalka waaba raadinaya, ii sheeg maxaan sameeyaa?" Markaasay tiri, "Ha welwelin,
aniga waxaa la idhahaa Faadumo xalis, wax walba aniga ayaa ku xalinaya, weliba wax kale ma ahan nin sixirlow ayaan kuu geenayaa, ninkaas sixirlowga ayaa wax walba kuu dhamaynaya. Laakiin Alicia markii intaasi maqashay arrinkaas ma aysan ku farxin, marka hore waa ay ka labalabaysay laakiin Faadumo ayaa ku qancisay, kadibna waqti ayay qabsadeen. 2 maalin kadibna labadoodu way soo raaceen, kadibna waxay soo aadeen ninkii sixirlowga ahaa. Ugu dambeyntii gabadhii Alicia waxay soo gaartay ninkii sixirlowga ahaa, kadibna arrinkooda idil ayay u sheegtay. Ninkii sixirlowga ayaa xilligaasi yidhi, horta gabadhaydii aad baan uga xumaa waxa kugu dhacaya, laakiin tan kale aan kuu sheego, xiriirka ka dhexeeya ninkaaga iyo weliba walaalkiis aad buu u adag yahay, weliba arrinkan aad bay u adag tahay. Alicia ayaana xilligaasi tiri, hadda xiriirkaas ka dhexeeya lama kala fogeyn kara miya? Laakiin ninkii sixirlowga ayaa xilligaasi yidhi, ha walwalin, aniga nin sixirlow ayaan ahay, waxaana agteyda waa ay ka fudud yihiin, labadaasna waa kala fogey karaa. Isagoo xilligaasi dhala soo qabtay, waxa uuna ku yidhi, gabadhaydii dhaladan ayaa qaadaysaa, waxaana kaa rabaa tintiisa inaad tintiisa ka soo goysid, intaa ku ridid, sidaasoo kale kaadi yaroo adiga midaada ah inaad meesha ku shubtid. Kadibna waxaan kaa hubaa inuu ninkaas haddii uu ku jeclaanayo, amarkaadana uu ku shaqaynayo. Tan kale aan kugu dari hadda waxaan kaa rabaa, subax alla keeno inaad bahashan la soo baxdid, kadibna aad keentid miiska hortaada, weliba marka uu baxo, subax walba oo weliba daily aad u samaynayso. Idan waxay tiri laakiin way adagtahay intaas ma samayn kariye. Markaasuu yidhi, haddii sidaas samayn karin, haddaba ninkaada kuma soo laabanayo. Mid kale aan kugu darase, ninkaada bahashan maalinka uu arko, ogow waa maalintii kuugu dambaysay, oo macnaha arrinkaada waa uu fashilmayaa, sixirkan halkaas ayuu ku burburayaa. Faadumo oo xilligaasi meesha fadhiisay ayaa gabadhii yartay Alicia dilaad waxayna ku tiri, qaalay maalmo mal samayn karaysaa camal, laakiin waxay tiri wadaadka amarkiisa waa inaa yeeshaa, weliba waa inaad sidaasi samaysaa. Iidan isla markiiba xal kale ma aysan banaaneen, waxay bilowday inay qaadato, waxayna u mahad celisay ninkii sixirlowga kadibna waa ay kasoo tagtay. Aan dib hadda ugu soo laabanno, xilligaasi fadhiga fadhiisay waxa ay la xiriirtay saaxiibadeed, waxayna xilligaas u sheegtay in maanta ay badbaado weliba ninkeeda xilligaas uu arki rabay barnaamijka ay haysay. Faadumo ayaana xilligaas ku tiri, saaxiib aniga hore ayaan kugu sheegay, ninkaaga ogow hadduu bahashan arko, adigana waa la doontaa meel cidla ayaana ku soo dhici doontaa, ee waa inaad ninkaada aad ka ilaalisaa. Iyadiisa goorta intaasi maqashay waa ay naxday, waxayna tiri waalay saaxiibay, laguma yaabo arrinka inuu ogaado, intaan ka qari karana waan ka qarinayaa. Xilligaasi fadhiga ayay fadhiisay waxayna isweydiinaysay siday arrinkani ku xalliso, sidaasoo kale waxa ay ka xamsanaysay inuu ninkan falaggiisa iyada qaba iyo weliba walaalkood mar kale ay midoobaan. Lacalla waxay is tiri lacalla haddii ay midoobaan, adiga maxaa kuu soo hari doona, arrinkaadana waa uu fashilmi doonaa. Kadibna waa ay fakartaa, maskaxda ayayna ka shaqaysay, saacado badan ayay fakaraysa. Ugu dambeyntii fikir ayaa ku soo dhacay, waxayna tiri hadda ayaan helay waddadii aan ku guulaysan lahay, lacalla xitaa haddii midoobaan mayn aniga gurigaani aan gacanta ku dhigaa. Iyadoo xilligaas sixirkii bilowday inay akhriso, kadibna waxay bilowday inay qariso. Habeenkii markii la gaarana, ninkii ayaa guriga ku soo laabtay, weliba xilligaas waa uu daalanay, wuxuuna doonay inuu iska seexdo. Laakiin xaaskiisa ayaa xilligaas waxay ku tiri, ninkaygu waxaan doonayaa arrin yar inaan kaala hadlo, waa haddii aan dhib u arkayn. Isagana ma uusan diidine, miskiinku waaba nin sixrane, ma uusan diidin oo waa uu ka aqbalay. Wuxuu yidhi amran waa dacan, maxaan ka caawiyaa xaaskaygiiyo maxaad iiga baahan tahay? Iyadana xilligaas waxay ku tiri, ninkaygiiyo dhegayso, wax kale maahane waxaan doonayaa, waad ogtahay walaalkaa hadda shirkad ayuu yeeshay, marka waxaan ka cabsanaa inuu hadhow kugu soo laabto kadibna dhulkoo idil uu kaala wareego. Iska waran gurigan haddii aniga aad igu qortid, magacaadana aad ka tirtirtid aniga magacayga aad saartid, si lacalla haddii xitaa uu yimaad hadhow uusan adiga dhinacaada kuu soo aadi karin. Ka waran fikirkaasi, isagiina waaba iska dhoolla caddeeyey, waxa uu ku yidhi, xaaskayga ma intaasoo kaliyaha, wax ka cabsan aniga ayaa kuu samaynaya. Iyadiina waa ay faraxday, hab ayayna ninkii siisay. Habeenkii sidaas ayay ku seexdeen. Subaxiga markii la gaarana, Alicia ninka ayay hurdada ka kicisay, waxayna tiri saaxiibana kaxeey. Labadooda xilligaas waa ay soo raaceen, waxayna soo aadeen nin qareen ah si uu iyaga arrinkooda ugu dhammeeyo. Ugu dambeyntiina nin qareen ay saaxiibayiin ayuu u yimid, arrinka ayuuna la wadaagay, wuxuuna ku yidhi qareen waxaan kaaga baahanahay xaaskayga guriga anigaan leeyahay inaad ku saxiixdid. Qareenkii xilligaas waa aamini waayey, weliba wuxuu isdhahay ninka saaxiibka maxaa ka khaldan, wuxuuna sidaa u samaynayaa. Kadibna waxa uu ku yidhi, ka waran walaal waxaan doonayaa si gaara inaan kula hadlo, waa haddii xaaskaada ay bannaanka u baxayso. Xaaska xilligaasi, inkastoo ay dareentay ninkani inuu wax samayn rabo, haddana waxay tiri, okay dhib male aniga waan baxayaa, ee la hadal ninkayga. Iyadiina isla markiiba xafiiska ayay ka baxday. Kadibna ninkii qareenka ayaa xilligaasi waxa uu ku soo jeestay ninkii falakis ahay, waxuuna ku yidhi, mudane aan su'aal ku weydiiyo, ma hubtaa gurigani inaa xaaskaada ku saxiixaysid? Kadibna falakis ayaa yidhi, oo haddaan ogeyn maxaa meeshan ka soo doonayay, ee waxaan kaa rabaa inaa hawshan aad noo kala tuurtid. Laakiin arrinkaasi qareenku ma uusan farxin, wuxuuna yidhi mudane, ma ogtahay arrinkan waa arrin khatar ah in xaaskaada gurigaada aad ku wareejiso, anigana taas kuma raacsani. Laakiin ninkii falakis ayaa xilligaas ku yidhi, dhegeysi saaxiibow, haddii barnaamijkan noo samayn karto noo sheeg, qareen kale ayaan iska raadsanaynaa. Isla markiina qareenka ayaa wuxuu ku yidhi, mudane amarkaaga ayaa jira, sidaas ayaan samaynayaa, si aad doonto ayaana kuu samaynayaa. Isla markiiba wuxuu ku yidhi hadda xaaskaada waa wici kartaa. Ninkiina isma dhibina falakis, isla markiiba mobilkiisa ayuu qabsaday, xaaskiisa ayuuna xilligaas u yeeray, kadibna waa ay soo gashay.
kadibna waxyaabihii loo baahnay ayaa xilligaasi la weydiiyey. Qareenka ayaana xilligaas ku yidhi, "Okay, mudane, beri ii soo laabta. Heshiiskeenna idil beri ayaa inii dhammaynaya." Iyagiina way aqbaleen, kadibna guriga ayay isaga soo laabteen. Habeenkii markii la gaarina, ninka Felix wuu iska seexday, laakiin riyo ayuu xilligaasi ku riyooday. Kadibna waa uu naxay, hurdada ayuuna ka soo kacay. Xilligaasna wuxuu arkay indhihiisa oo isbedelay, laakiin wuu naxay. Wuxuuna bilaabay arrinkaas inuu xaaskiisa la wadaago, laakiin goortii uu dhinaceeda iyada saas u soo dilaacay, indhihiisii waa ay fiicnaadeen, waa uuna yaabay. Subaxiga markii la gaarina, Aliisha ninkii ayay hurdada ka soo jaftay, waxayna tiri, "Saaxiibow, kaxeeyaan oo tagna ninkii qareenka ahay." Isagiina waa uu ka aqbalay. Kadibna waa ay soo baxeen, ninkii qareenka ayay u imaadeen. Wax walbana halkaas ayaa lagu dhameeyey heshiiskoodii. Kadibna xaafadooda ayay isaga soo laabteen. Dhinaca kale aan u jaleecno, ninkii kale oo lagu magacaabayay Samuel, kuwa kooxo tuuga ayaa xilligaas soo weeraray. Kadibna waxay bilaabeen lacag oo wata inay ka qaataan. Xabado ayayna xilligaasi ku dhufteen, weliba gurigiisa hortiisa ayay kula dhufteen. Laakiin xilligaasi waxaa aragtay xaaskiisa, kadibna waa ay naxday, weliba qayle ayay ku dhufatay iyadoo xilligaasi ku soo orday ninkeeda. Weliba Aaminila waxay arkayso, waxayna xilligaas aragtay ninkeeda oo dhiig fara badan ka daadanayo. Waxayna isku dayday inay ninkeeda xilligaasi badbaadiso oo ay meeshii ka qaado, iyadoo dhahayday, "Ninkeyga waan ku baryahay, iga tegin." Kadibna waa ay soo carartay, waxay isku dayday dad kale inuu wacdo, laakiin isaga ayaa wax yar soo kacay oo wuxuu bilaabay xaaskiisa inuu u waco. Iyadiina markaas way aamin weyso waxay indheheeda ku arkayso, sababtoo ninkeeda xilligaasi dhiig ayuu mategayey, dhiig badanna jirkeeda xitaa waa uu ka baxay. Kadibna waxay bilowday xilligaas inay soo ordo, sababtoo xal kale iyadoo uma banaanayn. Banaanka ayay u soo orday, ciidihii deriska ayay xilligaas u timid, waxayna xilligaasi weydiisatay caawimaad oo waxay ku tiri, "Ninkeyga ayaa xabado lagu dhuftay, kala badbaadiya." Dadkii deriska ayaa xilligaas soo orday, xitaa mid kaloo baabuur wata ayaa meesha yimid. Kadib waxay arkeen ninkii xilliga meeshaas yaal, laakiin ninkii meesha ayuu ku miir daboolmay. Inkastoo dadka xilligaas ay kala saari waayeen inuu meesha ku dhintay in kale, haddana isla markiiba lama dhigane ee baabuurka ayaa lagu tuuray, waxaana loola cararay dhanka isbitaalka. Intii ay waddada kusii jireen, gabadhii yarta ee deer ayaa isla markii waxay wacday ninkii Michael, waxayna u sheegtay arrinka xanuunka leh ee dhacay, iyo weliba ninkii in xabado lagu dhuftay, haddana ay isbitaal u sii cararayaan. Michael ayaana xilligaas ku yidhi, "Aniga ayaa isbitaalka kugu imaanaya." Iyadana intii ay waddada sii socotay, ninkeeda gacanta ka qabatay, waxayna tiri, "Ninkeyga waan ku baryayaa, ha iga tegin. Sidii cunugayga iga dhintay ha iga dhiman, sababtoo waxaa tahay qofka keliya adiga aan ku fiirsanayo." Ugu dambeyntii wax badan ay soo ordeen, Deera iyo ugu dambeyntii waxay soo gaareen isbitaalkii. Laakiin goortii ninka sidaas loo keenay dhakhtarka alla xilligaas waxa uu yidhi, "Aniga ninkan ma daaweyn karo ilaa ugu horreyn arrinkiisa booliska loo gudbiyo." Gabadhii Deera ayaa halkaasi ku calaacashay, waxayna tiri, "Wax mayna soo gaarayaan, waan ku baryayaa, aniga ayaana gudbinaya, laakiin ninka ii badbaadi." Dhakhtarkii xilligaas waa uu ka diiday, laakiin dadkii kale ee la socday ayaa xilligaasi dhakhtarkii la hadlay, una sheegay ninkan inuu wax dembi lahayn, ee marka inuu badbaadiyaa. Booliskana iyaga ayaa kala hadlaya. Dhakhtarkii ugu dambeyn hadalkaas waa uu ku qancay, kadibna waxa uu xilligaasi bilaabay ninkii in qolka emergency-ga la geeyo. Wax yar kadibna isbitaalka waxaa soo gaaray ninkii Michael ee kalkaalisay ayuuna xilligaasi la hadlay, wuxuuna weydiiyey ninka xaaladiisa. Iyagana xilligaas waxay u sheegeen inuu ku jiro qolka emergency-ga. Isagana isla markiiba uu soo baxo oo wuxuu soo aaday gabadhii yarta Deera meesha ay fadhisay, wuxuuna halkaasi ku arkay iyadoo aad u ooynaysa. Kadibna wuxuu bilaabay inuu dejiyo, wuxuuna ku yidhi, "Isdeji, ninkaada wuu caafimaadayaa, ee waxaan ku weydiinayaa ii sheeg, sidee wax u dhaceen? Ninkaana sidee wax u soo gaareen?" Iyadoo xilligaas ilimada ay ka daadanaysa, Deera ayaa waxa ay ku tiri, "Waxaan u malaynayaa dhibkaan oo idil walaalkiis inuu geystay, sababtoo hore ayuu uga hanjabay." Goortuus intaas maqla Michael wuu carooday, wuxuuna ku yidhi, "Ninkaada la joog, aniga ayaa arrinkaani soo xalinaya." Isagoo isla markiiba isbitaalka sidaas uga baxay, halka gabadhii meesha ay sidaas isaga oynaysay, weliba xilligaasi ku ducaysanaysay ninkeeda caafimaad qaba inuu soo bixi doono. Saacado badan oo ay kursiga isaga fadhisay, ugu dambeyntii dhakhtarka ayaa soo baxay. Iyadana isla markiiba dhakhtarka ayay kasoo daba orday, waxayna tiri, "Dhakhtar, waan ku baryaa, iiga warran ninkeyga xaaladiisa." Dhakhtarka ayaana gabadhii xilligaasi kusoo jeestay, kadibna waxa uu ku yidhi, "Gabadhaydii aad baan og xumahay, war xanuun badan ayaan ku hayaa." Laakiin gabadhii marka intaasi maqashay, dhulka ayay ku dhacday, oo micnaha halkaas ayay ku miir daboolantay. Wax yar aan halkan ka hakanno, bal dhankaas iyo ninkii Michael aan aadna dhinaciisa. Michael dhankaasi saldhig ayuu tagay, ciidan ayuuna soo kaxistay, gurigii Felix ayuuna soo aaday. Kadibna albaabkii waardiyaha ayaa ka furay maadaama uu arkay ciidan boolis ah, isagana wuxuu oggolaaday gudaha inay soo galaan. Michael isla markiiba waa uu soo galay, kadibna guriga hore ayuu albaabka ku gargaraacay. Xilligaas Felix laabtoobkiisa ayuu ku mashquulsanay, mana uusan maqlayn ciidamadii waxaan guriga soo gelaya. Gurigii markii loo soo gargaraacana waxa uu ku yidhi, "Gudaha u soo gala." Goortay sidaas u soo galeen, ninkii Michael ayaa ciidanka waxa uu ku amray xilligaasi, waxa uu ku yidhi, "Waa ninkan ninkii dhibaatada geystay, waa inay xirtaan." Felix xilligaas wuu aamini waayey wuxuu arkayo, indha ayaana ka soo haray, weliba wuxuu aamini waayey ciidanka gurigiisa xilligaasi dhex taagan. Isagoo yaaban ayuuna waxa uu ku yidhi, "Maxaa idinka khaldan? Maxaadna gurigeyga ka soo doonteen? Mayna fahmin sheekadiinana maxay tahay?" Mid ka mid a ciidamadii xilligaasi meesha jooga ayaa waxa uu ku yidhi, "Waxaa lagugu soo eedeeyey inaad walaalka isku dayday inaad dishid, haddana xaaladiisu ma fiicna oo isbitaalka ayuu ku jiraa. Marka sidaa darteed, dilkaas lagugu soo eedeeyey ayaa lagu xirayaa."
Felix indha ayaa ka soo haray, wuxuu yidhi Sigbal, dilka ka hadlaysin maxay tahay? Anigu waxaas waxba kama ogey, gurigayga ayaan iska joogay. Laakiin Michael oo meesha ka hadlaya wuxuu ku yidhi, beentis waaye, ninkan ayaa sabab u ahay, ninkaasina uu dhibaato u geysto, waan ku baryaa, ninkan ha layga xidho. Felix ayaa xilligaasi ku andacooday inuusan wax lug ku lahayn. Michael ayaana sidaas oo kale waxa uu ku yidhi, caddeen waxaa ku filan, walaalka waxaad asbuuc ka hor ugu hanjabtay in haddii shirkadda uu kuu soo celi waayo, adiga aad dhibaato u geysan doontid. Marka taas ayaa u sabab ah, khaladkeedana maanta ayaad guranaysaa. Xilligaas uu ninkaasi la hadlayay, gabadhii yarta Alisa waxay ku jirtay dhankaas iyo musqusha oo qubays ayay isaga jirtay. Kadibna qaylada ayay maqashay, isla markiina bannaanka ayay u soo baxday. Waxayna xilligaasi bilowday inay ogaato xaaladda meesha ka socota, waxayna aragtay ninkeeda oo xilligaasi la xirayo. Kadibna waxay dhahday, maxaa meeshani ka socda? Ninkaygana muxuu galabsaday? Michael ayaana isla markiiba dhinaceeda u yimid, wuxuuna ku yidhi, dhegayso walaalay, adiga arrinkan haddii wax liwa ku yeelato la soco, adiga iyo ninkaada xabsiga ayaa ku qurmaysiin. Alicia inkastoo xilligaasi ay fahmin waxa meesha ka socda, haddana indhaha ayaa ka soo haray. Markaas bay danahay istiri, waxaa laga yaabaa ninkii walaalkiisa in dhibaato loo geysto. Laakiin Michael oo mar kale sii hadla ayaa waxa uu ku yidhi, dhegayso walaalay, ninkan wax kalma uusan geysan, ninkii walaalkiisa kale ayuu dhibaato weyn u geystay. Xilligaana isbitaalka ayuu jiifaa. Kadibna iyadu xilligaasi waxay bilowday inay ciidankii la hadasho, oo waxay ku tiri, waan ku baryaa, ninkayga wax qalada ma leh ee hal iska daayo. Laakiin lama dhegaysan, isagana jeebadii ayaa hal mar lala haleelay. Kadibna meesha ayaa laga kaxeeyey. Hortaysa sidaas u baxeen, iyada kor ayay ka fiirisay, waxayna xaqiiqsatay inay baxday. Hortaysa sidaas u baxeen, ayay bilowday qolkii inay ku bilboodo, iyadoo xilligaas dhahaysay, iga tag hadda, ka Samuel isbitaalka ayuu isaga dhimanayaa, kanna xabsiga ayuu ku qormayaa, anigana gurigan weyn ayaan isaga dabaaldegayaa, oo kaligay ayaa isaga raaxaysanaya. Iga tag noloshan raaxada in kaga jiray ayba gashataba gabadhii. Dhan kale booliska ninkiiba xabsiga ayay u taxaabeen. Sidaas oo kale Michael ayaa ciidamadii lacag siiyey, wuxuuna ku yidhi, ninkani ilaa xaqiiqda uu keeno ha ka soo saarina xabsigaasi. Waxaan doonayaa in ilaa uu ka qirto arrinkaasi aadna u ogolaanina, ciqaab darana waa inaa marsiisiin. Booliskiina markii lacag la siiyey waxay dhaheen amran waa daacan. Kadibna ninkii ayaa xilligaas ku soo jeesteen, waxayna bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan. Waxay dhaheen wax walba waa inaad qirataa, sababta way iska cadyihiin. Isagana xilligaasi gaashaanka iyo u daruur wuxuuna u sheegay wax lugweyna uu ku lahayn. Kadibna lambarkiisa ayay baaritaan ku sameeyeen, waxayna arkeen nambar isaga 5 mar ka badan soo wacay. Markay isku dayeen inay dabagalaanna oo ay ku guuldareysteen lambarkaasi. Kadibna ninkii ayay ku soo jeesteen, waxayna bilaabeen inay saa'id u garaacaan. Isagiina wuxuu bilaabay inuu la hadlo, laakiin way ka diideen, waa ayna garaaceen. Kadibna markii ay ka daaleen waa ay ka degeen. Isagiina wax yar ayuu meeshii ku gamay. Laakiin goortaas oo gamay, riya ayuu arkay. Riyaasna waxa uu ku arkay wiilka walaalkiisa ee Samuel iyo isagoo god ku jira. Walaalkii Samuel ayaana xilligaasi isku dayay walaalkiisa godka inuu ka soo saaro, maadaama isaga uu bannaanka ugu baxay, wax badan uu la hardamay. Ugu dambeyntii waa uu ku guulaystay. Horta sidaas uga soo saaray, wuxuu arkay walaalkii Samuel oo xilligaasi karkiisa oo dhan wada dhiig yahay, dhiig badanna uu ka baxayay. Kadibna godka ayuu xilligaasi dillaacay, isaga laga soo saaray. Halkaasna waxa uu ku arkay nusas fara badan. Aan hadda dib u soo laabanno, inaan riyada aan ka soo laabanno. Ninkii xilligaas wuxuu bilaabay meeshii inuu isaga murugoodo, laakiin haddana xilligaas wuxuu xasuustay sababta xaaskiisa ilaa hadda aysan u soo booqan. Mar kale aan kala wareegno, qatarka isla markiiba gabadha ayuu meesha ka aaday. Kadibna saalada ayuu geeyey, wax badan oo la tacaala. Ugu dambeyntii waa uu ku guulaystay. gabadhii wax yar kadibna waa ay soo toostay. Hortay sidaas soo kacday dhakhtarka iyo waxay tiri, dhakhtar waan ku baryayaa, ninkayga Manolia mise waa dhintay, iga waran xaaladiisa. Dhakhtarka ayaana xilligaas la hadlay gabadhii, wuxuuna ku yidhi, gabadhaydii isdeji, ninkaadu waa uu fiican yahay, xaaladiisuna waa ay wacan tahay. Dhan kale aan kugu daro, adiga uur ayaad leedahay, marka waan ku baryaa stress iyo waxaas isgelin. Waxaan doonayaa qof kale adiga ma jooga oo aan la hadli karo. Isla xilligaasna waxaa gudihii qolka soo galay ninkii Michael ahay. Kadibna waxa uu ku yidhi, dhakhtar aniga ayaa ila hadli kartaa. Dhakhtarka ayaana isla markii waxa uu ku yidhi, waxaan doonayaa si gooni inaan kula hadlo bannaanka noo bixi. Kadibna labadooda bannaanka ayay u soo baxeen. Wuxuuna ku yidhi, haya dhakhtar iyo waran, ninka xaaladiisa hadda waa sidee? Kadibna dhakhtarka ayaa waxa uu ku yidhi, ninka hadda xaaladiisa waa ay liidataa oo waa bariga dhexe, waxaan doonaya inaa xafiiskii raacdid. Isagana waa uu ka qabalay. Kadibna xafiiska ayay tageen. wuxuuna ku yidhi, ninka horta waxaan doonayaa inaan operation aan ku fulino, si maadaama isaga xabadii ku dhacday ay ka gaartay dhankaasi kelida, dhiig badan ayaana ka baxay. Laakiin intaan operationka ama qalliinka aana ku samaynin, waxaan u baahannahay isaga dhiig inaan u helno. Dhiiggiisa markaan baarnana isbitaalka waan ka weynay. Markaasuu yidhi, Michael ayaa yidhi, dhakhtarka warankayga haddaan ugu deeqo. Markaasuu yidhi, maya waxaa loo baahan yahay qof isaga la dhashay ama qaraabadiisa ah oo dhiiggiisa la heli karo. Kadibna xilligaas Michael wuxuu xasuusaday ninkii walaalkiisa ah ee Felix oo ninkaani ay walaalahaayeen, inkastoo haddana uu xabsi ku soo hubsaday dadkiina uu la hadlay. Haddana wuxuu is yidhi, xal kale kuma bannaana, waa ninkaasina u tagtaa. dhakhtarka ayuuna xilligaas wuxuu ku yidhi, dhakhtar hal wiil ayaa jira, isaga ay walaalo yihiin, adiga ka waran haddii kaas aan ku keeno. dhakhtarka ayaana wuxuu ku yidhi, waa arrin wanaagsan, ninkaas waa inaan noo keentaa, weliba si dhaqsi ayaa loogu baahan yahay.
Michaelna wuu aqbalay isla markiina dhakhtarka ayuu ka soo tegay kadibna wuxuu hore u soo maray Dera arrinka ayuuna la wadaagay weliba in Felix loo baahan yahay kadibna labadu waxay go'aansadeen inay soo raacaan si ay ninkaas u soo baryaan baabuur ayay soo qaateen ugu dambeyntiina saldhigga ayay sidaas u soo gaareen goortay sidaas u imaadeen waxay arkeen ninkii oo jug culus loo geystay wejiga idil nabre uga yaalyaaliin isla markiina waxaa ku soo orday Dera waxayna bilowday ninkii inay bariso waxayna tiri Felix u dhegeyso wiilkii walaalkay xaaladiisu way liidataa oo bariga dhexe waaye qalliin ayaana la doonaya in lagu sameeyo laakiin dhiig alle ayaa looga baahan yahay ee dhiig adag ha lagu deeq saaxiibo waan ku baryaynaa isagana ma uusan diidin isla markiina waa aqbalay markii sidaas loo aqbalana waxaa lagu soo dara hal nin oo askariya si uu kor ugu ilaaliyo markii dhiiggaas loo soo dhammeeyena ninkan dib loo soo celiyo ugu dambeyntiina waxay soo gaareen dhankaas isbitaalka dhakhtarkii markuu ninkii arkana isaga ayaaba waxa la yidhi u baahan ninkana daawo isagii ayaa waxay laga daaweeyey kadibna dhiigga ayaa sidaas looga qaaday goortiisa ninkii waxay la daaweeyey dhiiggiina laga qaadayo kor wuxuu ku arkay walaalkiis oo dhankaasi sariirta saaran kadibna wuxuu galay xasuus dheer iyo weliba wuxuu xasuusta walaalkiis wuxuu u sameeyey balse aan u fahnaa walaalkiis wuxuu u sameeyey mar kale dib aan u laabanno weliba waxaan aadaynaa xilligoodii yaraantoodii ninkan lagu magacaabo Samuel iyo weliba Felix yaraantoodii waxay ahaayeen ilmo ku soo barbaaray nolol aad u xanuun badan hooyada sidaas oo kale way xanuunsaneeday Samuel ayaana had jeer waddooyinka ka shaqayn jiray lacago yar ayuuna soo samey jiray xitaa iskuulka wuu iska daayay walaalkiis ayuuna wuxuu ku yidhi adiga iskuulka dhiganayo ayaa waxbarashada kaa bixinaye sidaas oo kalena wuxuu samey jiray inuu hooyo daawooyinka xilligaas ay u baahneed inuu isaga u soo gadi jiray maalin walbana hooyadiisa garabkeeda ayuu taagnay halka Felix hada jeer isaga waxbarashada uu aad ugu dadaali jiray Samuel iyo Felix nolosha uu ku jiray ayaa maalin waxaa dhacday in ninkii Samuel ay shaqooyinka uu ka shaqayn jiray ka soo xirmeen kadibna maalin ayuu go'aansaday isagoo hooyadiis weliba walaalkiis u sheegin inuu iska baxo uuna iska tegay Felix markuu guriga ku soo laabtana walaalkiis ayuu xilligaasi waayay wuxuuna xilligaas weydiiyey sidoo ayuu walaalkiis uga tegay xitaa isagoo u sheegin meesha waadayo waqti xadirkana ku soo laabano ninkii Michael ahay kursiga ayuu ku fadhiyay xilligaas dhinaciisana waxaa taagnahay ninkii kale ee askariga ahay kaasoo lagu soo daray inuu Felix kor ka ilaaliyo inta walaalkiisa dhiigga ugu deeqayo ugu dambeyntiina ninkii Felix ayaa ka soo baxay isbitaalka maadaama walaalkiis dhiigga ugu deeqay kadibna kursiga ayuu xilligaasi fadhiistay oo waxa uu sugayay inta walaalkiisa xaaladiisa ay ka soo wacnaanayso sidaasoo kalena uu u ogolaaday ninkii askariga ahay laakiin Michael ayaa bilaabay ninkii inuu indhagooni uu ku fiiriyo ninkii markuu sidaas u fiiriyana wuxuu xaqiiqsaday in ninkani uusan wax ku lahayn dhibaatada weyn ee loo geystay ninkani Samuel xilligaas ayuuna bilaabay ninkii inuu maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo kadibna waxa uu xasuustay hadalkii loo sheegay ee u sheegtay gabadha kale ee Dera ee la xiriiray arrinka lacagta wuxuuna xilligaas yiri kaalay Samuel shirkadda inuu lacag ka soo qaado kadibna xaafadiisa uu keeno maxaa ku kalifi kara isagoo awooda in lacagtaasi bangiga uu geeyo kan kaliya lacagta isagoo u soo dhiibay su-aasha kaloo sii taagan waxay tahay ninkani yaa tuugada u sheegay inuu lacag wato su-aalahaasoo idil maskaxdiisa ayay ka guuxayeen laakiin ma aysan jirin qof xilligaas uga jawaaba qofka keliya oo xilligaas uga jawaabi karana waa ninkii Samuel ahay laakiin Samuel xilligaasi waxa uu ku jiray saalada isagana meesha ayuu xilligaas iska fadhiyey inkastoo haddana mar kale xasuustay Felix laba maalin ka hor maadaama ninkan uu la kulmay una sheegay ninkan Michael inuu ninkan Samuel iska ilaaliyo maadaama ninkan uu tuug yahay horta bal wax yaraan fahanno Michael iyo weliba ninkan Samuel maxaa ka dhexeeya sanado ka hor ninkan Michael wuxuu lahay rajo weyn rajadiisana waxay ahayd inuu isaga furto kambani weyn kadibna waxa uu la kulmay ninkan lagu magacaabo Samuel isagoo xilligaasi ka dalbaday inuu isaga caawiyo ugu dambeynna kama uusan diidin oo ninkan xilligaas wuxuu ahay nin shaqaysta Samuel ayaan ka hadlayaa Michael ayuu sidaas ku caawiyey ilaa Michael ugu dambeyntii lugihiisa uu ku istaagay waxaan ka wadaa oo noqday nin shaqaysta sidaasoo kale ugu dambeyntii uu la kulmay ninka kale ee ganacsadaha ah sidaas ayuuna xasuustay markaasuu yidhi maya Samuel lagama yaabo inuu lacagtaasi xado sidaasoo kale xaaskiisa dhinaca kale ayay fadhisay oo meesha ayay ku fikiraysay ninkeeda ayay xilligaas u ducaynaysay iyadoo rajaynaysa inuu mar uun soo bixi doono mar kalean dib u laabanno sheekadii hore ay dib noogu tagto waxaan ka hadlayaa xilligii ninkii Samuel oo meesha kasoo tegayey kadibna markuu sidaas u tegay Samuel wiilkii yarka ahay ee Felix uu xanuunsaday hooyadiisa wax yar soo fiicnaatay ayaa bilowday wiilkeeda inay caawiso maalmo yar oo sariirtii saarnayna ugu dambeyntii wuu iska soo fiicnaaday kadibna wuxuu bilaabay xilligaas inuu iskuulka iska daayo oo hooyadiis ayuu bilaabay inuu u shaqeeyo maadaama uusan haynin wax kale oo xilligaas u baahnaa waxay cuni lahaayeen sanad kadib walaalkiis ayaa mar kale soo laabtay weliba xilligaas uu soo laabtay lama uu soo laaban lacag fara badan ee wax yar ayuu la soo laabtay kadibna wuxuu ku yidhi meeshan waxaan u imaaday inaan furo akoon marka ani waxaan doonaya inaan dib u laabto si aan lacag kugu soo diro ugu dambeynna
2 maalin kadib ayuu iska laabtay kadibna lacag walba oo ninkan uu shaqaynayay Samuel maadaama magaalada uu joogay hooyadiis ayuu akoonka u diri jiray lacagtaasna waxay isugu jirtay lacagtii waxbarashada ninkii Felix iyo weliba hooyadiis caafimaadkeeda si kastaba haatee Felix waa uu dadaalay ugu dambeynna waxa uu dhameeyey waxbarashadii inaha dugsi sare goortuu sidaas u dhameeyey walaalkiis ayaa ku soo laabtay xaafadii uu ku noolaay kadibna waa uu kaxeeyey isagii magaalada ayuu geeyey si uu halkaasi waxbarashada uga sii wado kadibna guri yar oo isagoo ku noolaay Samuel ayuu walaalkiisa keenay wuxuuna ku yidhi walaalkaygu halkan joog aniga ayaa jaamacadda bixinaya laakiin habeen ayuu walaalkiisa la fadhiistay wuxuuna ku yidhi horta saaxiibow waxaan kaaga baahanahay markii annakaad naga soo tagtay magaaladan aad timid iga warran noloshada sii ahayd kadibna wuxuu bilaabay xilligaasi taariikhdiisii inuu uga sheekeeyo wuxuu yidhi markii ugu horreysay imaanaya waxaan waaye meelaan seexdo waddooyinka ayaan seexday kadibna maalmihii xiga waxaan galay suuqa oo waxaan raadsaday waxaan nafteydan ku maareeyo xitaa gaari gacanla waan soo noqday walaalkaygu gaari gacanla keliya maahan ee xitaa biyo ayaan waddooyinka ku soo wareejiyey intaasoo idil waan soo sameeyey inkastoo haddana nolosha sidaas u adkeed sidaas ayaa noloshaan ku soo waday Felix goortuu intaasi maqla waa uu naxay wuxuuna xilligaas isagoo isla hadla yidhi walaalkaa rafaad badan ayuu kuu soo maray waxaasoo idilna wuxuu u sameeyey si aniga waxbarashada hor uma gaaro sidaasoo kalena hooyaday caafimaad u hesho walaalkiisoo hadalka sii wataa Samuel ayaan ka hadlayaa waxa uu yidhi walaalkay waxaasoo dhan waxaan kuugu sheegayaa si ay cashir kugu noqdaan haddana jaamacaddaad iska xaadiri aniga ayaana lacagtaada bixinaya isagana ugu dambeyntii admishinka ayuu jaamacadda ka helay maalinkii xigana ninkii Samuel ah wuxuu u tegey nin kale oo ganacsada ah wuxuuna ka codsaday inuu isaga shaqo siiyo ugu dambeynna waa uu ka helay shaqadii ayuuna sidaas u bilaabay keliya ninkaas kuma uusan ekaan ninkan Samuel wuxuu ahay nin howlkar ah xilligaasi waxa uu bilaabay xitaa guryaha dhismaha inuu ka shaqeeyo si uu isaga halkaasi lacag badan ugu sameeyo ugu dambeynna waa uu ku guulaystay ninkiina barnaamijkiisa ayaa u kala kacay wuxuuna noqday nin taajir ah kadibna waxa uu xilligaasi bilaabay gurya inuu dhisto weliba 3 guri ayuu dhistay 2 magaalada ayuu ka dhistay halkana meeshii hooyadiisa ay ku nooleed ayuu ka dhistay sidaasoo kale ninkii Felix ahay isagana jaamacaddii waa uu soo dhameeyey ugu dambeyntiina ninkan Samuel waxa uu guursaday gabadhan Dera maadaama hadda isaga nin taajir u noqday walaalkiis ayuu caawiyey walaalkiis ugu dambeyntiina isagana waxa uu samaystay shirkad uu gooni u leeyahay kadibna waxa uu guursaday gabadhaas yaa inay tahay hadda qof kale maahane waa tirshadeenna sheekadeenna taasoo ah Aliisha ayuu guursaday wax walba si wanaagsan ayay u socdeen maalin kale ayaa waxaa dhacday arrinkoo idil bedeli doona weliba Samuel faqiirtinimada u keeni doona maalin ayuu wuxuu la kulmay nin ganacsada ah weliba ninkaasi nin caddaan ayuu ahay kadibna Samuel ayuu wuxuu ku yidhi Samuel oo barnaamij fiican ayaa noo hayaa waxaan doonaynaa shirkad meeshaan inaan iibsano weliba shirkadaasi ninkaas kale waa nin kale oo caddaan ah wuxuuna doonayaa inuu waddankiisa isaga laabto shirkadaas haddaan aan qaadano oo weliba aan ka gadanno waxaa laga yaabaa inaan wax fiican aan ka soo saarno xilligaasna dakhli fiican ayuu u sheegay Samuel wuu aqbalay inkastoo xilligaasi lacag ku filan uusan haysan uu kambanigaas ku gato xaaskiisa ayuu arrinkii la wadaagay xaaskiisa ayuuna xilligaas wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa guryaha aan leeyahay dhammaan inaan gado sidaasoo kalena waxaan doonayaa bangiga deen inaan ka soo qaato ee ka warran arrinkaasi xaaskiisa kuma aysan raacin waxay tiri ninkaygiiyow walaalow waa degdegaysa ma lasdhihi karaa tan kale aan kugu dare 5 xabo oo ukunta aad haysatid ha ku shubin hal galaas si ay dhammaantood iga dhan kaaga khasaareen laakiin isaga xilligaasi xaaskiisa ma uusan fahmin mana uusan dhegaysan hadalkeeda kadibna barnaamijka ayuu sidaas ugu biiray isagoo bangiga xilligaas deen ka soo qaatay gurihii isaga lahayna oo sidaasi ku gaday kadibna ninkii caddaanka ahay ayuu heshiiskii la galay laakiin arrinku sidii la filayey ma uusan dhicin oo muddo bilooyin markay ka soo wareegeen ninkii maalmaha ka mid a Samuel isagoo xaafadiisa jooga ayaa waxaa loo sheegay shirkaddii inay khasaartay ninkii markuu intaasi maqlana hortii ayuu ku dhacan weliba xilligaas uu aamini waayey walaalkiisa oo xilligaas warkii maqlay ayaa bilaabay walaalkiis inuu u sheego inuu isaga garabkiisa taagan yahay weliba deymaha lagu leeyahana xitaa isaga uu ka bixinayo laakiin taasi ma aysan dhicin oo bilo kadib ninkii Felix wuu isbedelay oo walaalkiis wuxuu ku noqday cadow oo xitaa mararka qaar booliska isaga ayaa ugu xiri jiray markii deymaha loo qabsado isagoo xitaa mararka qaar dhibsa jiray isagoo xilligaas weydiinayay sida uu walaalkiis isku bedelay maadaama isaga sabab u ahay inuu intaan oo dhan soo garab istaago aan waqti xaadirkan u soo laabanno ninkii Felix ahay meeshii uu fadhiyay waa ka soo kacay kadibna walaalkiis dhinaciisa ayuu xilligaas yimid maadaama dhakhtarka ugu dambeyntii operationkiisa uu sidaasi ku soo dhameeyey isagana waxaa loo ogolaaday inuu walaalkiis gudaha u geli karo kadibna Felix gudaha ayuu soo galay xilligaas ayuuna bilaabay walaalkiis inuu arko isagoo sariirtii saaran weliba aan soo kicin kadibna walaalkiis ayuu ku dul ooyey laakiin wax yar kadib wuxuu maqlay dhawaaq ka soo yeeraya mashiinadii ku xirnay ninkii Samuel weliba markuu sidaas u jaleecay waxay muujinayeen calaamadaha khatarta ah sidaa darteed wuxuu xaqiiqsaday walaalkiis wadna garaaciisa inuu sii yaraanayo ninkii markuu arkay walaalkiisa oo xaaladiisa hoos u sii socoto sidaasoo kale uu dareemo wadnihiisa garaaca inuu sii yaraynayo ayuu isla markiiba qaylo ku dhuftay waxa uuna yidhi dhakhtar walaalkay xaaladiisa waa ay kasii daraysaa ee kaale ka soo gaar
dhakhtarka ayaan isla markiiba maqlay kadibna dhinaciisa ayuu xilligaas u soo orday wuxuuna ku soo jeestay ninkii Felix ahay wuxuuna ku yidhi Felix oo adiga iska bax aniga ayaa arrinkan xalinaya kadibna kalkaalisooyinka ayaa gudaha u soo galay isagana xilligaas wuxuu bilaabay ninkii inuu dib u gala barnaamijkiisa ugu dambayna waa uu ku guulaystay dhankale Felix bannaanka ayuu xilligaa isaga soo baxay ilinta ayaana xilligaas ka daadanaysay oo qoomo ayuu galay wuxuuna xilligaas soo gaaday walaalkiisa inuu sabab u ahay maanta dhibaatadan oo idin soo gaarayso albaabka dhinaciisa ayuuna xilligaa isaga ooyey isagoo eedeynta idil dusha isaga saaray wuxuuna yidhi sideen ku noqday doqon walaalkay wax walba ii sameeyey intii uu ii soo mariyey weliba rafaadka idil maanta ma waxaan ugu bedelay inuu sariirtaasi fuulo sidaas oo kale meesha markuu ku weynayey xilligaas waxaa u timid deera oo aragtay ninkii oo halkani ku weynaya kadibna waxay xilligaasi weydiisay sida uu xaaladda Samuel yahay isagana xilligaas wuxuu u sheegay inuu xaaladiisa oo liito weliba uu dhanka hoose jiro goortii markay intaasi maqashaydi weydiisay waxayna go'aansatay xilligaasi inay gudaha qolku gasho laakiin Felix ayaa xilligaasi ka celiyo ma soo galaan gudaha inay gasho Michael sidaas oo kale kor ayuu ka daawanayay xilligaasna wuxuu xaqiiqsaday ninkani Felix inuusan arrinkan wax la ku lahayn kadibna wuxuu bilaabay deera inuu dejiyo wuxuuna ku yidhi deera walwalin ninkada wuu soo ficnaanayaa operationkiisana waa lagu fulinayaa marka uu ku baryaa isdeji iyadiina meesha ay bilaawdinaysa go'aysa sababtoo xilligaas waxay ka cabsanaysay ninkeeda inuu ka geeriyoodo si kastaba ahaatee dhulka ay isagoysay kadibna waxay xilligaasi bilowday ilaah inay bariso iyadoo dhahaysay ilaahu waan ku baryaa ma doonaya garoob inaan noqdo ee waxaan doonayaa ninkayga inaan la noolaado ee ilaahu fursad labaad ii sii ninkaas oo ku baryaa hayga dilin ducadaas ayay bilowday inay ku ducaysato kadibna laba kalkaalis ayaa xilligaasi arkay iyadii ay bilaabay inay dejiyaan mid ka mid a kalkaalisooyinka ayaa xilligaasi dhahay maruu waan ku baryaa inaa isdeji tan kale adiga ur ayaa leedahay urkana sidaas oo kale uma wanaagsan cunugaada ayuu waxyeelo u geysan karaa haddii si aan aad u sii hoydid mid ka mid a kalkaalisada ayaa xilligaasi uur laheyd iyadana isla markiiba way aqbashay waxayna xilligaasi bilowday inay isdejiso kadibna waxay fadhiisatay meeshii ninkeeda lagu dabeebeeyey qolkii hore albaabkiisa ugu dambayntii saacado badan oo ka soo wareegay dhakhtarkii waa uu soo baxay xilligaasna wuxuu sheegay war farxad leh gabadhiisa marka intaasi maqashay aad bay u farxday weliba xilligaas way aamini weysay maadaama ninkeedii xaaladii khatarta ay hadda uu ka badbaaday isla markiina waxay bilowday meeshii farxad darteed inay la-oyso isla markiina Michael iyo waxaa arkay sidaas oo kale ninkii Felix ahay gabadhii ayayna meeshii ka soo qaadeen maadaama hadda xaaladeedii isbedeshay si kastaba ahaatee ninkii askariga ayaa Felix u yimid wuxuuna ku yidhi Felix adiga barnaamijkaadi waa uu ku dhammaaday in noo baxaana aadna dhankaas iyo saldhigga laakiin Felix ayaa xilligaasi bilaabay askariga inuu baryo wuxuuna ku yidhi askari waan ku baryaa meesha hartigeysa laakiin waa inaad ii ogolaataa inaan la joogo walaalkay inta operationka uu ka soo baxayo marka operationkiisa u dhammaadana aniga waa ay kaxaysan kartaa saldhigga doontana igu xir Michael ayaa xilligaasi kor ka fiirsanayay xilligaasna wuxuu xaqiiqsaday ninkani inuusan wax ku lahayn dhibaatada loo geystay Samuel isla markiina askariga ayuu xilligaas la hadlay wuxuuna ku yidhi askari ninkan waqti sii hamid dambe ilaa beri meesha ha jooga anigana ayaa kor ku haya dhakhtarka ayaan isla markiiba qalliinkii galay oo Samuel ayaa lagu sameeyey ugu dambayntiina waa uu ku guulaystay kadibna bannaanka ayuu u soo baxay halkaas iyaguna wuxuu ku arkay gabadhii deera waxaa lagu yidhi caawa adiga waa la joogi kartaa oo sariirta dhinaciisa seexo halka raggii kale ee Felix iyo weliba Michaelna ay dhankaas iyo qolkii kale iska jiifteen iyagoo halkaasi ku sugayey iyadiina say meesha isaga jiiftay maraysa qadha xataa iyo waxay ku soo toostay in ayada loo wacayo weliba xilligaas la dhahayay ka caliso iyadu marka hore wuxuu maleeyay inay riyoonaysay laakiin ugu dambayntii waxay ogaatay ninkeedan oo soo kacay kadibna ninkeeda ay xilligaas ku oroday waxayna bilowday inay habsayso weliba iyadoo ilinta farxadda xilligaas ay ka daadanayso ninka ayaana xilligaas ku yidhi caliis aad baan kuuga xisay isagoo xilligaas aamin laha inuu xaaskiisa mar kale arkayo iyadana laftirkeeda xilligaas aad bay u faraxsaneed laakiin wax yar kadib qolkii waxaa soo galay ninkii Felix ahay walaalkiis ayuuna xilligaasi arkay inuu hadda xaaladiisa ay soo wacnaanayso kadibna wuxuu u jabjabsaday wuxuuna bilaabay inuu walaalkiisa baryo wuxuuna ku yidhi walaalkaygiyow qalad weyn ayaan kaa galay marka waan ku baryaa iska kay cafi xelal ma uusa sugin xilligaas inta walaalkiisa u jawaabayay isaga ayuuna xilligaas isku duubay wuxuuna ku yidhi walaalkayu qalad waan galay maqaldumana waa ilaah marka waxaan kaa rabaa inaad iska cafisid Samuelna xilligaasi walaalkiis maadaama arkay inuu iska soo rujucay ugu dambayntii wuu iska aqbalay wuxuuna ku yidhi walaalkaygu aniga waxba kuma haysto sidaas oo kale waxa uu bilaabay Felix inuu yiraahdo walaalkay waan ogahay intii arfaad ii soo martay laakiin sida aan kuugu bedelay iyo weliba waxaan kuugu dhigay waan ku barayaa taas inkastoo adagta in la cafiyo laakiin iska cafi isagana waa uu ka aqbalay Michael xilligaas albaabka ayuu taagnay wax walbana uu arkayay xilligaasna xaqiiq kale ayaa u cadaatay taasoo ninkan inuusan wax la kulayn barnaamijkan laakiin markaas wuxuu soo xasustay horta ninkii waardiyaha ee guriga Samuel ka shaqeynayay halkuu maalinkaasi jiray kadibna wuxuu bilaabay saldhigga inuu tago ciidana xilligaas uu ka soo kaxaysto inkastoo haddana ninkaasi gurigiisa uusan aqoonin wuxuu dib ugu soo laabtay dhankaas isbitaalkii oo wuxuu yimid gabadhii deera si uu bal xog uga ogaado waana halka nin oo barnaamijku ay xidhiidhi kara
kadibna deera ayuu xilligaasi weydiiyey adreska iyo weliba ninkaas meesha uu ku noolaay maadaama iyaga ay la socdaan guurkan ay ka shaqaalaysiiyeen. ugu dambeyn waa loo tilmaamay kadibna waxay toos u socdeen waa michael iyo weliba ciidankii gurigii. laakiin xilligaas markay imaadeen meeshii waa ay ka waayeen. michaelna markaasi waa uu niyad jabay, wuxuuna xilligaas xaqiiqsaday ninkaani in barnaamijka wax ka ogaay. xilligaas waxay bilaabeen dadkii inay weydiiyaan weliba agtiisa ka dhowaay. ugu dambaynsa waxaa loo tilmaamay guri kale oo isaga ku nool yahay. iyagana xilligaas waa ay farxeen oo michael ciidamadiiba waa ay dhaqaaqeen gurigii kale ayay tageen. nasiib darase goortaysa gurigiisaas u tageen waxay ku arkeen waxay aad uga naxeen oo ninkii waardiya ahay oo halkaasi lagu dilay, dhiiggiisana meesha idilo buuxiyay iyo halkaas ku arkeen. michaelse markuu arkay xilligaas wuu iska niyad-jabay sababtoo halkay caddaynay barnaamijkoodii ku xali lahaayeen halkaas ayuu ku fashilmay. sidaasoo kale xilligaas waxaa xaqiiqsaday qofkii dhibaatada idilka dambeeyey weli inuu nool yahay. bal wax yar intaan ka hakanno dibna anugu laabano dhankaas isbitaalkii. felix maadaama walaalkiis ugu dambayntii raaligelinta uu ka aqbalay, haddana wuxuu ku soo jeestay deera maadaama iyadana ay ka mid ahayd dadkii dhibaatada loo geystay. wuxuuna bilaabay xilligaas inuu ku calaacalo, wuxuuna ku yidhi dumaash iga raalli noqo oo nogahay horta qalad weyn ayaan galay, qaladkeygana in la cafi karo aad bay u adag tahay sababtoo wax walbaan kuu geystay weliba intii dhibaataan ku marsiiyey oo ku baryay si kay cafi. xilligaasna deera waxay bilowday inay ka fekerto iyadoo wax walba dib u xasuusatay iyo weliba intii dhibaatadii oo loo geystay. ugu dambaynna waxay jallacday dhankaas iyo ninkeeda ayaana xilligaas u dhoolla caddeeyey, taasoo ka dhigan macnaha iska cafi. ayadiina kuma aysan diidin oo isla markii waa ay ka aqbashay hab ayayna siisay waxayna tiri waan ku cafiyey. isagana markuu intaasi maqal aad ba u farxay. wax yar kadib ayuu waqti la sii qaatay kadibna wuxuu go'aansaday ninkaas inuu dhankaasi xaafaddii dib ugu laabto. laakiin xilligaas wuxuu isweydiiyey sababta xaaskiisii dhahadda xitaa ay saldhig ugu soo booqolaadahay iyo weliba in jaceylkeedu beenbeen ahay. walaalkiis ayuuna xilligaas ku yidhi walaal waxaan doonayaa inaan dib xaafaddii ugu laabto sababtoo xaaskayga ayaa i sugaysaa. laakiin samuel xilligaas waxayuu dareemay, waxauna ku yidhi xalabba sameey weliba si aa xaaskaada u tijaabiso, taasna wax kale maahan 2 habeen guriga aadin oo hotel iska seexo kadibna xaafaddaada ku laabo. isagiina wuu aqbalay kadibna hotel ayuu iska seexday. 2 maalinna wuxuu xaqiiqsaday xaaskiisa marnaba inayd ayada xitaa ay soo wicin, wicitaan iska daaya xitaa isaga ay soo baadigoobin. subaxnimadii markii la gaaran isaga waa uu soo dhaqaaqay kadibna xaafaddiisa ayuu xilligaa toos u saaday si uu balla ogaada xaaskiisa iyo weliba wax ka qaldan. goortoosa gurigiisaas u soo gaaray kor waxa uu ka arkay xaaskiisa oo xilligaasi la sheekaysanaysa gabadhii ay saaxiib ahaayeen, taas ahayd faadumo. kadibna gudaha ayuu soo galay, waxuuna bilaabay xilligaasi inuu ku qayliyo oo wuxuu ku qayliyey aliisha. wuxuuna ku yidhi aliisha maxaa kaa qaldan, maxay tahay xaas nooce ayaa tahay, jaceylkaad beenbeen ma u ahay, intaan xabsiga ku jiray xitaa marno imaada soo booqan. faadumo ayuuna ku jeestay waxuuna ku yidhi adiga saaxiiban ayaa tahay, waa inaa hadda guriga ka baxdaa. iyadiina markay intaasi maqashay waxay bilowday inay meeshii ka dhaqaaqdo, laakiin intaysan dhaqaaqin waxaa isla markaas aliisa kadibna waxay ku tiri beybi gacaliye maxaa kugu dhaca, maxaana kaa qaldan, waxay ta si aa hadlaysid hadda ayaa soo laabatay, marka waan ku baryayaa isdeji ee hadda qolka sii aad, wax dhib ha isgelin iyo weliba buuq, aniga ayaa saaxiibadeed hadda iska diraye. ninkii xilligaasi wax yar ayuu aamusay kadibna wuxuu bilaabo ninkii inuu dhoolla caddeeyo, wuxuuna ku yidhi okay xaaji amarkaada ayaa jira, hadda ayaan qolka aadayaa. iyadina isla markii waxay tiri okay aniga ayaa kaa damaanaya. kadibna felix wuu dhawaaqay qolkiisa ayuu aaday. xilligaas aliisa ayaa aadash waxayna tiri alla wadaadkas wadaad fiican oo ahay, ninkii daqiiqad ayuu isku bedelay. faadumo ayaana sidaasi tiri walaalay ninka kontaroolkiisa xadkaa dhaafsiisayse camal markaas tiri walaalay hadda ninkii ayaan laalada waa ku baryaa, waxaad igana xaafadad aad, mar kale ayaan qabanaynaa, macnaha waa sheekaysan doonaa. iyadiina qolka ay xilligaas ka aaday. 2 asbuuc ayaa kasoo wareegatay. ninkii samuelaha ugu dambayntii isbitaalka ayuu ka soo baxay kadibna xaafaddiisa ayuu xilligaasi dib ugu soo laabtay. wuxuuna xilligaasi bilaabay inuu keligiis ka fekero. sidaasoo kale michael isaga xitaa fikirkii ma uusan joojin, welina wuxuu isweydiinay ninkaasi weliba waxaa dhibaatada geystay inuu ogaado. maalin maalmaha ka mid ayuuna samuel wuxuu ku soo booqday dhankaasi gurigiisa. kadibna wuxuu ku yidhi saaxiibu samuel horta su'aalaan ku weydiiyo, su-aasha wax kalman horta xaaladaada iga warna adigu fiican tahay. xilligaas wuxuu sheegay inuu fiican yahay kadibna wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiinayaa horta lacagtan la sheegayo ee weliba shirkadda aad ka soo qaaday, inkastoo lacagta isxaddigaas badan shirkaddu xitaa aysan bixi karin, sidee yaa kuu soo dhiibay? kan kale maxaa bangiga u gey weysay haddii xitaa lacagtaas lagu soo dhiibay, gurigaadana maxaa kala soo doontay? samuel ayaana bilaabay xilligaas inuu hadlo, waxuuna yidhi war aan ku siiya saaxiibow, lacagtaas horta wax iisoo dhiibay master john. lacagtaasna wuxuu ugu yidhi saaxiibo lacagtan qaad bangiga gey. xilligaasna waxay ahayd xilli galabdhaxa, anigana xilligaasi waan degsanay xaafadda ayaan rabay inaan aado.
kadibna hoos ayaan u soo degay si aan baabuurkay u kaxaysto laakiinse markaan hoos usoo deg waxaan arkay baabuurkay labada taanyeer dambe in xilligaas ay ka banjarsanaayeen oo ayna shaqaynayn marka baabuurka ayaan isku dayay inaan helo laakiin waan ku guuldaraystay kadibna xaafadda ayaan iska soo aaday michael ayaana xilligaas waxuuba xaqiiqsadaba in ninka dhibaatona idil ka dambeeya master john uu yahay johna nin kale ma ahan ee waa nin ka shaqeeya shirkadda uu ka shaqeeya samuel weliba waxuu xilligaas uu ka soo horjeeday ninkan in la siiyo boos isaga ka sarreeya sidaas ayuu dhibaatona idil u geystay michael markuu xilligaas intaasoo idil xaqiiqsaday samuel iyo wuxuu ku yidhi saaxib waan ku salaamayaa kadibna waa uu ka tegey subaxiga markii la gaarana saldhig ayuu xilligaas iska xaadiriyey kadibna laba ciidan ayuu hore u soo kaxaystay wuxuuna toos u soo aaday shirkaddii uu ka shaqaynayey john xafiiskiisa iyuuna toos u galay john xilligaas indhaha ayaa ka soo haray michael ayaan xilligaas ku yidhi askaray waa kana shaqaysta ninkaan raadinaynay ee ha la xiro isla markiina ayageenu ma aysan diidin hadla markiiba jawaabadii ayay ninkii ku taageen isagiina wuxuu bilaabay xilligaas inuu qeylqeyliyo laakiin qeyladiisa lama dhegaysan isla markiiba waa la kaxeeyey sidaasoo kale waxaa la weydiiyey nimankii tuugada oo samuel xilligaas u adeegsaday kadibna waa uu tilmaamay iyagiina daqiiqad kuma qaadan booliiska oo xaafadahooda ayuu tilmaamay iyagana waa la soo qabtay kadibna saddexdoodaba xabsiga ayaa loo tacaabay markii la weydiiyey sababtuu dhibaatadan idil u geystana xilligaas wuxuu sheegay inuu samuel oo ka masiirsanay iyagana xabsi daayin ayaa lagu xukumay maadaama dilay isku dayeen si kastaba ahaatee noo soo celi dhankan iyo felix subaxyada kamid isaga iyo xaaskiisao guriga fadhiya ayaa albaabka lasoo gargaraacay kadibna gabadha ayaa xilligaas usoo arday albaabka markiisa furtay xilligaas waxay aragtay waxay aad uga naxday waxayna aragtay xilligaasi gabadhii deeraeeda uur leh iyo weliba ninkeedii samuel ninkeeda ayaana xilligaas iyada wuxuu u sheegay samuel inuu isbitaalka uu ku geeriyooday iyadana xilligaas way xaqiiqsi weysa waxay indheeda ku arkayso kadibna waxay kusoo jeestay felix waxayna ku tiri felixo maxay tahay waxaan indheega ku arkayo waxaad ii sheegtay inuu samuel geeriyooday muxuu halkani ka samaynayaa felix ayaana xilligaasi bilaabay inuu sir u hadlo wuxuu ku yidhi xaaskayga isdeji wax walba hadda waa ay cad yihiin hadda maahan xilliga aniga ay kontroolaysay oo micnaha aniga hadda kontroolkaadii waan ka baxay tan kale aniga ma aan ogeyn xaas sidaan u xun inaan aniga qabo weliba adiga xaas waa ka xun tahay xaasna xitaa kuguma tilmaami karo hadda wixii ka dambeeyana waa inaa guriga ka tagtaa hortaysa gabadha aliish intaasi maqasho way aamini weysay indha ayaana ka soo haray ninka imaamulaysa ayaa hal mar isbedelay kadibna waxay ku tiri saaxiib balsugbal horta waaba ku fahmee sidee laakiin kontroolka igu baxday balshaxda iga dabagey kadibna wuxuu bilaabay sheekadii u sheegayo waxa uuna ku yidhi moogtaha maalinkii guriga aan imaanayay adigay saaxiibaddaa isla fadhiiseen waan kugu qayliyey adoona i raalligelinaya xilligaasi bilowday inaad si jilacsan ila ashaad tiraahdo orod baybi guriga iska gal aniga ayaa kaa damaanaya xilligaas ayaana xaqiiqsaday adiga inaad xaas xun tahay sidaasna qolka ayaan sii galay kadibna baaritaan ayaan sameeyey ugu dambayntiina waxaan halkaasi ku arkay sixirka aniga ayay adeegsanaysay sidaa darteedna sixirka ayaan ka takhallusay laakiin si aan sidaasoo kale sirtaada idil bannaankan usoo saaro ayaa waxayse kaa dhigayay qof wali kontaroolkaada ku jira marka aliisha barnaamijkaadii waa uu soo dhammaaday anigana waad iga furan tahay haddana waa inaad gurigaan iga baxdaa aliisha oo xilligaasi qosasha ayaa tiri laakiin la saxo qofka guriga baxaya aniga ma ahane waa adiga sababtoo ah hilmaamin guriga inaad hore iigu saxiixday weliba aniga waad igu wareejisay falakasta goortuu intaas ku ogaado waa uu ku murugooday kadibna wuxuu xilligaasi bilaabo hoos inuu fiiriyo isagoo ogaaday xilligaas inuu qalad weyn oo galay laakiin xilligaasi deera ayaa meeshay timid kadibna waxay ku tiri aliisha horta aad baan uga xumahay sheekada aan kaa dabageeyo horta warqadaha originaalka aniga ayaa gacanta ku haya aan bal dib ini celiyay si ay sheekada ay fahanteen ma xasuustaa maalinkii ninka qareenka uu yidhi maalinka xiga iisoo laabta si aan arrinkani kugu dhammeeyo sidaas ayuu ku ballameen kadibna isagii wuxuu la xiriiray samuel arrinka ayuuna xilligaa u sheegay samuel oo xilligaasi xaqiiqsay walaalkiis inay xaaladiisa wacnayn ayaa wuxuu ninka qareenka xilligaa u sheegay inuu warqada feega u diyaariyo ugu dambayntiina waa uu ka aqbalay warqadii originaalkana meel kale ayaa la dhigay kadibna warqadii originaalka ayay xilligaasi deera soo bixisay gabadhii markii aliisha maqasintaas waa ay naxday felix warqadihii ayuu fiiriyey ugu dambaynna waa xaqiiqsaday weli guriga inuu isaga leeyahay xilligaasna farxad ayuu isla celi waayey isla markiina wuxuu ku soo orday dhankaas iyo dhankii walaalkiis isagoo xilligaasi bilaabay hab inuu siiyo waxa uuna xilligaas ku yidhi walaal aad baad u mahadsan tahay sida aad ii garab istaagtay isla markiina waa uu dhaqaaqay wuxuuna aaday dhankaasii qolkii wuxuuna bilaabay boorsooyinka yararkaay ee aliisa leed inuu xilligaas usoo qabto bannaanka ayuuna ugu soo tuuray wuxuuna ku yidhi labadii boorso ee gurigaana kuu tiilay waa kan haddana waa inaa guriga iga baxdaa adigana waad iga furan tahay mar dambana iyaana gurigan kugu arkin aliisa xilligaas waxay bilowday ninkiina maalacasho waxayna tiri waa ku baraya qalad ayaan galay iska kay cafi laakiin ma uusan dhegaysan iyadiina labadii boorso ayay xilligaasi bilowday inay iska soo jiidato waxayna toos u soo aaday dhankaasii gabadhii saaxiiba ay ahaayeen ee faaduma iyadoo xilligaas rajaynaysay inay garabsay doonto
doonto laakiinse goortii sidaas albaabka ugu timid faadumo ayaa ka furtay kadibna waxay ku tiri saaxiib ha iisoo gelin sababtoo ninkayga u malinaya inuu ku ogolaanayo inaad adiga guriga timaadid waa ku baryaae meelo kale iska raadso sababtoo ninkayga ma rabo inay dhibaato weyn iyo waxaas iga soo gaarto laakiinse gabadhii markay intaasi maqashay way aamini weyse waxayna ku tiri maxaa ka haldaan faadumo waad ogtahay aniga saaxiibo ayaa nahay tan kale adig ninkaada ma kantaroosh miya oo sixirka uma adeegsatay miya xilligaas ayay faadumo waxay ku tiri saaxiib horta aad baan uga xumahay aniga ninkayga kantarool iyo waxaas iguma jiro midda kale aan kugu sii darayo haddii ninkayga uusan awood gurigan ku lahayn oo weliba uu maamuli karin sida ayaa u malaynaysaa in gurigan lagu wada noolaalahay marka waan ku baryaa walaalay gurigii inaan burburiyo mar rabo waa inaad hadda guriga iga tagtaa laakiinse gabadhii markay intaasi maqashay eliza aad bay ula yaabtay waxayna ku tiri saaxiiba way qiyaantay saaxiib xun ayaa tahay adiga ayaa igu dhiirigeliyey ninkayga inaad sidaas ku sameeyo maantana dhibaatadii aan geystay ayaa sidaas igu soo gaartay marka saaxiibay sidaas hayla dhaqmin laakiin xilligaas waxay ku tiri gabadhii faadumo walaalay ma doonaya hadalkaada macnaan dhegaysto ninkaygana ma doonay inuu iu ka arkee marka waa inaad iga fogaataa mana doonaya mar dambe gurigeeda inaan ku arko saaxiibtii nabadina halkaas ayay ku soo dhammaatay aliza goorta intaasi maqashay inta ayaa ka soo haray ilinta ayaan xilligaas ka daadatay waxayna bilowday inay faadumo bariso laakiin faadumo waa ay ka diiday waxayna ka tiri bax igata gurigayga mana doonaya mar dambe inaan ku arko iyadoo isla markiiba albaabkii hore ka xiratay faadumo ma xilligaasi warka ayaa ku caddaaday waxayna ogaatay meel cidla inay ku soo dhacday kadibna labadii boorse ayay xilligaas ka soo jiidatay waxayna iska soo aaday dhankaasi waddadii waxayna xilligaas u xasuustay inay aadday dhankaasi gurigii hooyadii aabaheed laakiin xilligaas waxay isdhehaysay haddii guriga hooyada aabaha aadid maxaad u sheegi doontaa haddii ay ku weydiiyaan ninka muxuu kugu soo furay iyadoo xilligaas aad u cabsanaysay waddadii ayaana xilliga isaga oysay aliishana halkaas ayaa iyada u dambaysay bal dhinaca kale aan u soo laabanno gabadhii bilooyinkii markay dhammaysatay deera waxaa loola soo cararay dhanka isbitaalka si ayada halkaasi loogu soo dhaliyo sidaasoo kale dadkii soo raaca waxaa ka mid ahay falakis iyo weliba samuel michaelna ayaan kaaga reebin ugu dambayntii gabadhii waa lala tacaalay waxayna dhashay laba mataana ah oo wiil iyo gabara deera inkastoo xilligaas haddanay aamini weysay samuel markii warkii farxadda u gaara aad buu u farxay weliba waa uu farxay in isaga hadda loo dhalay ilmo mataana ah oo weliba wiil iyo gabar ah xilligaas ayuuna bilaabay inuu aad u farxo sidaasoo kale warkii wuxuu gaaray ninkii falakis ah oo isagana isbitaalka joogay markuu arrinkaas ogaadana aad buu ugu farxay oo weliba uu aamini waayey inay hadda laba qoyska ay ku soo bireen isagoo xilligaas haddana ballan kala bilaabay inuu qaado yiri ilmaha waxbarashadooda aniga ayaa qaba samuel ayaana xilligaas xaaskiisa ku jeestay wuxuuna ku yidhi xaaskaygii aad baan ku jeclahay waxaana tahay boqoradaydii iyadana sidaasoo kale waxay tidhi ninkaygu aad baan ku jeclahay oo sheekadayna asxaabay romaatigaas ayay ku soo gabagabooday bal su'aalayni weydiiye nala wadaag qaybtii kugu xanuunka badneed aniga qaybtii ugu xanuunka badneed weliba aniga oo duubayey waxay ahayd qaybtii markii cunugga yarka uu dhimanayey samuelna uu walaalkiis ku calcalayay laakiin uu u diidayey adigana fikirkaada commentiga nagula wadaag muuqaalkoob inaad like saartid sidaasoo kale taxanaha noocan haddaad jeceshahana commentiga nagula wadaag si aan u soo badino waa walaalkiin baraadoon leh sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu